kala qubataan qalbiga uga ooyayo harjiyo dhibtaa badanba qolba qaadan waaye Sidaad niga karae ayaamadan islahae mise urura kala raaya arsashaan kumalanae
Kenya Tantarare, Tagera Waligine. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكني وحال إني قصة دهينا يا برنامج اللي كبحي جيبوتي توست تي في. أنا هو حسن دالية أو دي قبل تنجم أول لبا إني نقطة وقت يوم ما درك المناسبة إني يبدأ دهينا برنامج عادي هذا حسب بدل ومدة جيبوتي الصومالية ودم على وذابنه وحن أنا عاوة أن لنا هاي حبيبها بين بكويني عاوة ونحوي يعني برنامج عادي هذا حسب بدل مع ناس يا صديق يعني barnaamijyada oo ku salaysan kulliba dalka Djibouti iyo maaragtay Soomaalida ku guuleysatay badoodii dheereed ee kheyraadka lahayd maadaama uu ila joogo waraagi weynaa Xasan Sheekh Xareed oo ugu wada barateen inuu nidaadiyo barnaamijyo aad iyo aad u xiiso badan oo mar waliba uu niyaga yahay inuu garabkiina yahay garab joogsado mar waliba uu dadkiisa u jecel yahay inuu ka saaro ciilkii cadhada Djibouti ay la habsatay amba ummadda reer Djibouti dhibaatada haysata Xasan Sheekh kulliba waxa lagaga bartay wax wanaagsan inaad jimco waliba u soo diyaarisid caawana kulliba waa lagaga fadhiyaa ummaduna way ku sugaysaa barnaamijka Xasan oo qaybtiisa hor ku soo dhaw waa ku dhawaay waad salaamantahay Xasan oo waan ku salaamayaa dadkan dhageysanayna waan salaamayaa soo dhawaadana ummadana dhageysanaysan waxaan leenahay soo dhawaada caawa iyo haddana barnaamij kale jimcihi aad u barateen iyo inaan nila qaybsano wixii aan yahaynaba insha Allah hadii la yiraahdo aad baad u mahadsantahay Xasan waa kaaga mahadcelinayna waa aad baan kuugu dhiirigelinaynaa intaad bulshadaada la wadaagaysid wax wanaagsan oo maalin wali oo jimcaaba u soo gashid oo maaragtay dadkaaga aad la jeceshahay wax wanaagsan Soomaalida kulliba iyaguna ku guuleystay maxkamaddii adduunka maaragtay iyaguna ku guuleystay badoodii inay helaan oo ay u soo noqoto iyo damacii ka galay dalka Kenya waxa ku soconayna Xasan barnaamijyadeeni waa si guud galaynaa ma sha Allah adigoo lagaaga bartay wax wanaagsan kulliba xagga Djibouti yaan u soconaa Djibouti baan u dhaadhacaynaa Xasan su'aasha aan ka weydiinayo senasasta ama maaragtay keeska retreatka afka Soomaaliga lagu yiraahdo keeska ama maaragtay dakhliga ama meesha lagu kaydiyo hawlgabka Djibouti iyo bal waxaad uga soo diyaarisay maadaama uu ku soo celi lagu yiri barnaamijkii oo wax badan ka soo diyaarisay keeska iyo hawshiisa iyo sidoo wax u socdaan maalmaha dambe soo socda iyo waqtiyada dambe bal dadkaaga maxaa la wadaagaysaa sheekadaadana maaragtay waa lagaaga fadhiyaa ummaduna way ku sugaysaa reer Djibouti kullu wax fiican bay kaaga barteen حسن waxa weeyaan keeskaasi ama CNSS loo yaqaan afka Faransiiska ama loo yaqaan khasnada hawlgabka ama wasaaradda hawlgabka u qaabilsan dadka reer Djibouti ay lacagta dhigtaan dadka shaqaalaha ee reer Djibouti meeshaasi waa meel jirta 60 sano ku dhawaad bay jirtaa 60 sano ku dhawaad bay jirtaa meeshaasi ka badan 60 sano waa 60 sano waxa sheegay war ka badan tahay waxa la abuuray meelaha 60nadii baa la abuuray iminka waxay noqonaysaa maxaan ku tilmaamnaa 70kii way galaysaa hadii waxay jirto marka keeskaasi waxa lacagta waxa dhigta dadka shaqaalaha ay shaqeeyaan lacagta laga gooyo mishaarkooda qaybta laga gooyo yaa lagu shubaa si hadhow bariya u helaan lacag hawlgaba markay gaboobaan ay noqdaan inay shaqaysan kareen dadkaas inay qaataan pension boo yaqaanaan dadka Soomaaliyeed dadkeena xagga Soomaaliya pension baa looga yaqaanaa xaggeena waxa looga yaqaanaa maxay ahayd retreat baa looga yaqaanaa ama lacagta hawlgabka marka keeskaasi lacagta uu ku shaqeeyo waxa shubaa maxay ahayd shaqaalaha laga gooyaa mishaarkooda waa wixii dadku ay shaqaysteen waxa kale oo ku jira shirkadaha loo shaqeeyana waxba laga gooyaa oo lagu shubaa keeskaas
marka lacagta keeskaasi halkaa bay ka timaadaa uu ku shaqeeyo keeskaas lacagta ku shaqeeya halkaa bay ka soo baxdaa haddaba waxaa dhacay inaa la ilaaliyo oo la dhowro oo maxay si fiican loo maareeyay ahayd lacagtaas sababtoo wax ummad ay leedahay ummad agooma ah ummad maxay ahayd oday gaboobay islaan gabowday ay leedahay waa dad gaboobay soo shaqeey waa dhididkoogii laakiinse darindiir baa gashay oo wuxuu noqday qaato qaada bay noqotay meeshii waxba kama jiraan waa lagu bartiifay saan idhaahno luqadda suuqa Djibouti waa lagu bartiifay oo waxa laga dhigay wixii doona lagu sameeyo waxa lagu bixiyaa qandaraasyo waxa la bixiyaa aan faa'iido lahayn oo keeska faa'iido aan u lahayn ayaa la bixiyaa qandaraasadaasi waxa kamid ah sida informatigo kale markii la jadiidinayay waxa la siiyay qolo uu adeer u yahay Ismaaciil Cumar baa la siiyay waxba may sameeynin waxaana lagu siiyay 1 bilyan oo faranka Djibouti lagu siiyay qandaraaskaasi ay ku qaateen waxay sameeyeen waxba uu socon waayay kadib kala loogu yeero Francis oo meeshii ka shaqeeyay oo hagaajiyay marka waxay ku tusaysaa sida loogu ciyaarayo meeshaasi haddaan ka bilowno xasanow intii dambe keeskaasi shaqaalaha la qorayay waxay ahaayeen bis bangigii la oranayay dadkii laga soo dareeriyay ina halkan lagu guray baad moodaysaa oo badan beesha carabta Djibouti badan ina ahayd meeshii lagu ururinay baad moodaa ee lagu xanaanaynay inay noqotay marka waxa weeyaan taa markaad ka soo gudubtid siyaabaha loogu ciyaarayo lacagta waxa kamid ah oo arkaysaa waxa meeshaasi laga sameeyaa dhismooyin cajiib ah laga sameeyaa waxaad arkaysaa inaad joogtid baad moodaysaa guryihii boqortooyadii markaad tagtid waxaad moodaysaa inaad joogtid guryihii boqortooyada xafiiska waxa la dhigaa wax ku filan baa la dhigaa oo miis ranji isku wada mid ah qaab bay leeyihiin xafiisyada loo sharaxo sida guryaha iyo maxay ahayd shaatooyada ama maxay ahayd vilayada looma sharaxo qasriyada waaweyn looma sharaxo xafiisku qaab loo sharaxo leeyahay waxa ugu fudud baa la dhigaa xafiiska sababtoo ah meel lagu shaqeynaya meel lagu raaxaysanaya maaha marka waxaad moodaysaa dad tagtiimka sayniska gudaha dad gashid ama baabkayga horteeda dad joogsid gadaasha dambe waxaad moodaysaa guryihii boqortooyadu ay lahaan jireen Faransiiska ay lahaan jireen baad moodaysaa waxa la sameeyay oo kamida oo arkaysaa laydharka dusha lagu dhajiyo maaha laydhka xafiis loogu talagalay xafiiska laydh caadiya loogu talagalay kuwan laydhka xafiiska loogu talagalay meena waa kuwii sharaxaada lahaa ee qaaliga ahaa baa lagu rakibay marka maxay ka dhigan tahay laydhka lagu soo iibiyey $1,000 baa la qorayaa ina $4,000 lagu soo iibiyo 3,000 baa jeebada lagu shubanaya 1,000 waa lagu dhijinaya laydh $4,000 ayaa lagu dhijiyay maxay yaa xafiiska ku dhex yaala meelaha la marayo u dhaxeeya xafiisyada u dhaxeeya dariiqyada xafiisyada u dhaxeeya leerarka baa ku yaala cajiibka 4,000 iyo 5,000 la siiyo marka waa sharaxaad ma xafiis waa guri la sharaxayaad moodaysaa waa lacag la isticmaalayo waxa kamid ah SME waxa loo sameeyay meelo lagu ciyaaro oo ciyaalku ku ciyaaraan baa loo sameeyay oo lacag la geliyay waaba la gartaaba inta ay ilmaha islaantu daweynayso inay ku yar ciyaarsiisa meel yar waaba la gartaa ilma xanuunsanaya ma garanayo ciyaarba ma haleelaya haddana lagu ciyaarsiyo waa la gartaa laakiin qiimaha lagu sameeyay maaha qiimo meel ubad ku ciyaaraan maaha dadkii lacagta la geliyay iyo meeshu intay leegtahay isma baleba oo wax islahay wad arkaysaa lacag lagu cunayo SME-ga koobaad ee ku yaala muxuu ahaa magaalada Djibouti ee guudka ku yaala kaana waxa la sameeyay Plateau Terrebonne ku yaala qaybta la yiraahdo waxa la sameeyay isna dayactir xoog lagu sameeyay oo aan loo baahnayn baa lagu sameeyay sababtoo ah dawo ma taalo laakiin si gidaaradii waa la dhisay ranji baa la mariyay dad aragti gidaarada kol kasta ranji baa la mariyay laakiin dawadii dadka lagu daweynay xafiiska maxaa loo sameeyay meesha maxaa loo abuuray dhakhtarka inay dadka lagu daweeyo dawadii lama hayo iyo qalabkii lama hayo laakiin gidaarka waa la jadiidiyaa kol kasta waa laga shaqeeyaa meesha lacag baa ku baxdo lagu cunaa ilaa dibadii wasaaradda nimankaas keeskan la yiraahdo sheegay in kale ilaa dibadii baa lacag la geliyay oo dhulkii dibadii baad arkaysaa sida loo dhisay oo marmar lagu sameeyay mutleel ama marmar ninba sidoo yaqaanad dibadda baraxa lagu sameeyay dariiqa agtiisa wad arkaysaa in lacag la geliyo lacag lagu cunayo meeshaas waxaan la cunayana waa wixii ummaddu ay maal dhigatay waa shaqaalaha waxa dhigtay waa dadkii hawlgabka ee soo shaqeeyay lacagtii laga gooyay mishaarkoodii laga gooyay waxa saa loo galayo taasi waxay ku tusaysaa wixii kale dawladda maxaad ka malayn cid daba socota jirintii dadkii masaakiinta ay daba socdeen baa saa loo galaya ay takalna maxaad ka malayn marka waxa kale oo kamid ah directorada 12 milyan gaari la siiyay yaa loo soo iibiyay dhinaca kalena gaari baa kira ayay ku isticmaashay gaariga imka isticmaasho waa kiro 600 oo kira bixisa bil kaste oo kiraysatay ma garanayo xafiisku waxa uu diiday inuu gaari yeesho laba ku xigeenkayga 12 milyan oo kala gaari loogu soo iibiyay
maxay hayday dhiisheeg xafiisyada servisyada waxa loogu soo iibiyey 8 milyan kiiba yaa xabad gaariga loogu soo iibiyey departmentka kuwa xukuumada sarsare waa 8 milyan kuwa ka yar hooseena waa 4 milyan baa gaariga loogu soo iibiyey marka waad arkaysaa ina meeshani ay tahay baabi'iya inay tahay loogu talagalay marka waa kumameeyo qof waa dad lagu tilmaami karo 50,000 oo qof ilaa 30,000 oo qof oo Djibouti ayaa ku nool baalka 50,000 oo qof waa 100,000 oo qof baa ku nool Djibouti keeskaas oo dadkii soo shaqeeyay oo dhan mishaarkooda halka waxay ka qaataan lacagta hawlgabka halka ay ka qaataan dumar waxa jira ciyaal haysta oo odayadooda dhintay oo halka ka qaata wuxuu keeskaasi ku shaqo leeyahay caafimaadka dadka shaqeeya waliba uu ku shaqo leeyahay marka gaarigan ay directoradu 600 oo kun baa uu ku kareysan yahay wadato marka haddaba xasanow waxa meeshaasi 60% dadka hawlgabka maxaa ku dhacay dadkii arintaasi lacagta lagu talki falayo waxay ku soo noqotay dadkii meesha lacagta dhiganayay ku soo noqotay dadkii baa la dhimay maxay hawlgabka ama ID qaadanayay dadka reer Djibouti soo shaqeeyay iyo hoos loo dhimay waxa dhacday imika waxaad arkaysaa 3 bilood 50,000 oo Djibouti qaadanaya waa $300 wuxuu qaadanaya qofka Djibouti waad garanaysaa $300 waxba kuma taray waa kuwa dadku boorami iyo dirdhab iyo dhulkan iska wada guuray dadkii reer Djibouti aragtay hawlgabka halka wada guuray dhulka iska degay sababtoo Djibouti waxba uma tarayso qofkii $300 noloshii baa xirkaaya xaggana Ismaaciil Umar baa fadhiyo cunaha hayo saabuuntii inankayga iyo biyihii inankayga iyo maxayday baastadii inankayga caanaha inankayga ku haya maaragtay xaggana waxa la jaqayaa keeskii marka waxa weeyaan waxa kale oo ku keeska aan ka hadlaynaa ku soo biiray xasan oo keeskaasi markuu ahayd sanadkii 2012 bishii saddexaad buu Ismaaciil Umar sameeyay guddi uu yiri waxay wax ka bedelayaan qaabka u shaqeeyaan maxayday retreatku ama caafimaadka uu shaqeeyo iyo wax laga bedelayaa guddi uu sameeyay oo inantiisa ku daray haybada jirta gudiyadaasi waxa loo sameeyay inay casriyeeyaan ay wax ka bedelaan oo ay la socodsiiyaan baahida jirta ilaa guddi marka la asaasay meel loo asaaso dhibaato jirta waa inay wax ka bedelaan ay wax wanaagsan ku soo biiriyaan oo ummadda u faa'iideynayaan laakiin sida ma ahayn waxa weeyaan guddigani waxa loo sameeyay siyaabaha loo cuno inay meel dhigaan sidii loo cuni lahaa lacagta dadka shaqaalaha urursadeen ee loo raamsan lahaa inay nidaamiyaan oo ay meel dhigaan baa loo sameeyay oo ay fudaydiyaan baa loo sameeyay family Ismaaciil Umar sidoo cuni lahaa baa loo sameeyay marka ciyaalkiisu ay ku jiraan waxa quraata ay soo saareen guddigaasi guddiyada la sameeyay waxa quraata ay lahayaa maanta ay soo saareen waxa weeyaan laba kaar caafimaad bay sameeyeen kaar laf oo caafimaad laba nooc bay sameeyeen mid baas la yiraahdo mid maas la yiraahdo bay sameeyeen labada kaar caafimaad markii hore buu jirayay kaarka caafimaadka mid baa jiray hal baa jirayay qofka shaqeeyna Djibouti qofka shaqeey kaarka waxa haysanayay la isku daweeyo laftaas qofka shaqeeya haysanayay lacag qaaraan ay ka qaado hay'adaasi hawlgabka ee Djibouti ay ka qaado iyo haysan jiray oo isku daweynayay lacagta hawlgabkana ku qaadan jiray haduu gaboobo laakiin imka waxa lagu daray mid labaad bay yiraahdeen markii hore qofka shaqeeynin dhakhtarka uu gutagayo uu cadeynayay inuu la shaqeeyo waa la daweynayay laakiin imka kaar baa loo sameeyaa baa leeyahay qofka aan shaqeyn marka qofka shaqeeyay muxuu ahaa waxa loo bixiyay maas yaa kiisiisa loo bixiyay kan shaqeyna baas baa loo bixiyay qofka shaqeynina kaarka loo sameeyo isku daweeyo marka waxa la yiri qofka shaqeeya kaarkiisa dawadiisa waxa qaadata wana soo noqonaynaa qofka shaqeeya dawadiisa cid qaadata qofkaana shaqeynina hawlgabka ama lacag soo gelin ama shumaashka la yiraahdo waxa bixinaya kaarkan isku daweynaya baas markuu dhakhtarta uu isku daweeyo lacagtii ku baxda dhakhtarka waxa bixiya wasaaradda muxuu ahaa taakulaynta iyo maxay solidarity-ga la yiraahdo taakulaynta la yiraahdo iyo lacag 1 bilyan oo faranka Djibouti u shubta sanadkii keeskaasi aan sheegayna halkan calaamadiis ku taale CNSS loo yaqaano ee caafimaadka u shubta iyo hawlgabka u shubta lacagta 1 milyan ka xasan oo ay u shubto muxuu ahaa ay u shubto keeskaasi waxa loogu talagalay dadka aan shaqeynin bila shaqada ina lagu daweeyo ayaa lagu talagalay oo ay kabto maxay hayday kharashka caafimaadku markaas keeska maxaa dhacay hadaba lacagtaasi meel marta lama hayo waa la raamsadaa waxa iminka soo baxay
qofka sita kaarkaasi maas markuu tago meel caafimaada waxaa laga yidhaahdaa hadday 3 kun noqoto ka soo qaad caafimaadkii dee maxay yahay consultationki ama maxay yahay dhakhtarku markuu eego lacagtii ku baxday 3 kun ba hadday noqoto Djibouti 1500 bixi baa la dhahaa qofkii ma shaqeeyaal ku ka bixinaya quda dawladii baba ka dhigtay 1 bilyan maxaad isaga weydiini inuu konton baa la weydiiyay 100 baa la weydiiyay qasab baa laga dhigay haddii dawo lagu qoran dhakhtarku waxba kuma siinayo waxa lagu leeyahay farmasiga ka iibso ninkan ma shaqeeyo waxba ma soo galaan muxuu farmasiga ka iibsan ninkan dawladii baa bixisay lacagtiisii ma argaysid tii dawladda ay shubtay keeska lagu shubay ma jirto waa la cunay isaga laga qaadaya lacagtii ku bixi lahayd caafimaadka wixii hore ma arkaysaa marka waxa ka dhigan tahay 1 bilyan kan waxa loo sameeyay si loo cuno waji baa loo sameynaya loo cuno qof laguma daweynayo dad laguma daweynayo been baa waxaan oo dhan waa been waxba kama jiraan waa shaqalkii Ismaaciil Umar iska naqaano shaqadiisii markaas nidaamka bay ahayd haddaba kan kale baas leeyahay kaar kale baas u bixiyeen kaarka kale baas waxa weeyaan qofka shaqeeya loo sameeyay ee shaqahaya qofka shaqeeya ama ku shaqeeyo shirkadaha gaarka ama dawladda u shaqeeyo ama independent ahaadaba oo madax banaanaado wuxuu sameynayaa lacag buu bixiyaa boqolkiiba qayb baa laga gooyaa mishaarkiisa oo uu shubaa hay'adda markuu shubo dawo helaa caafimaad buu helaa wuxuu helaa hawlgab bari markuu gaboobo uu shaqayn kari waayo lacagtii hawlgabku helaa haddii accident ku dhaco lacagtii accident buu helaa gabo islaanta uur kale waxay qaadataa lacagtii muxuu ahaa intay fadhiday ilmaha sidooyi intay umusha tahay bay qaadataa lacagtii mishaarkeeda halka baa siiso ay ka qaadataa marka waxa weeyaan ii sheeg kaas isna halkii buu maray hadda ninka laga goynayay lacagta ee waliba shirkadu u shaqeynaya shubayso isna halkii un baa la mariyay markuu isdaweeyay imika waxa la leeyahay dhakhtarada waaweyn markuu tagay suuqa ama privateska tago waxa la leeyahay musiye iska daa boqolkiiba ka tan bixi waxaan kugu daweynay baa la leeyahay halka baa isna laga dhacaya oo laga cunaya lacagtii oo loo joogaa marka wixii laga goynay mishaarkiisa waxba kama jiraan baa laga dhigay marka waxa dhacay shirkado badan oo laba shirkadood baan la xiriirno magaalada oo weydiino kan war lacagtan laga goynayo shaqaalihiina dhibka lagu hayo magaalada waan ognahay yiraahdeen maxaan sameynaa bay yiraahdeen meesha maafiya qabsatay madaxtooyada ka socotaa bay yiraahdeen maaha wax deeqa yar kaligeed ay waxaynayso waa ciyaalka Ismaaciil Umar waxa iska qabsaday meesha deeqa yar waa la dhigay way u shaqaysaa meesha waa la dhigay waxa iska qabsaday meesha waa ciyaalka Ismaaciil Umar baalo meesha gacanta geliyo iska dhuuqay yiraahdeen waan ognahay taa bay yiraahdeen wixii aan shubnaana inay madaxtooyada iyo koonad dibadda lagu shubto offshore waan ognahay akoonto marka labada hay'adood la xiriirnay waxa kale oo yarayaaba wax weyn dawada laga iibinayna waa dawadii generic waa dawo ay dhamaatay maxay hayday license-kii ay lahayd dawadaasi oo cid kasta samayn karta adaa iska furan kara meel intaad fasax soo qaadato samayn kartaa waa dawo lacagta lagu sameeyo lagu soo gato ay dhulka taalo taana lagu soo gataa faran baa lagu soo gataa dawadaasi dawadii baa dadka laga gadaya inka waxa la furtay farmasiyaal ay leeyihiin dad gaar ay leeyihiin oo waliba ciyaalka Ismaaciil Umar ay leeyihiin ayaa la furtay iyaga hoosaan dadku ay ku qoran dad kale ku qoran yihiin laakiin waxa la ciyaalka Ismaaciil Umar farmasiyadaasi dawada iyaga ka iibinaya dawada markay ka iibiyaan waa dawadii dawladdu soo iibisay dawladda keeskaga laga bixiyay lacagta dawada lagu soo iibiyay farmasiga baa la geeyay farmasigana waxa la ciyaalka Ismaaciil Umar baale markaaba dawadii la qaadaya oo maxay hayday ii sheegeen dadkii laga iibinaya marka ma arkaysid lacagtii qaab nidaam oo tuugnimo waxa la samaystay tuugnimo saqajana dawladii baa laga soo xadaya lacagtii intii toos loo qaadan lahaa dawaa lagu iibiyay baa la leeyahay dawadiina halkee la geeyay farmasiga baa la geeyay waxa taa kaaga daliila waxa dhacday waan ognahay muxuu ahaa inay gubatay muxuu ahaa ii sheegeen sanadkii hore inay gubatay kaydka dawada kam baa la yiraahdaa ee dhakhtarka weyn way gubatay oo dab baa qabsaday meesha markii aad eegtid warqadihii xisaabta yaalay intuu dab ku qabsan waxa yaalay 20 milyan oo franka Djibouti dawada taalada ee dalkaasi dawada taal halka waxay ahayd 20 milyan bay ahayd marka halkay 20 milyan ay dawadaasi ka ahayd oo franka Djibouti maalintii dab ku qabsaday qiimeyn baa lagu sameeyay wixii meesha ku baaba'ay qiimeyntii xasan oo lagu sameeyay meesha wixii ku baaba'ay 320 bilyan bay noqotay ama milyaar raantu waa milyaar bay noqotay ama bilyan ninba sidoo yaqaanay noqotay waxa weeyaan waa 10 goor intii taale meesha ayaa laga dhigay qiyaasta oo dawladda la saaray oo leeyahay inta baa baaba'day keena oo lacagta inta la kuma baadin waa been waxa weeyaan waa qaab wax lagu cuno kala la sameeyay hadda markaysi waxa weeyaan marka shuwaydu matala xanjabuuf
سي دلدل صو دلدل واجي حنجبوه في يعني مترين سي دلدل صو دلدل يا سالين كل مترين روايدي بودن ku noqday wuxuu gacanta u galay waad arkaysaa nin makhbaarad ka soo shaqeynaya Ismaaciil Umar la yiraahdo oo wax dadka maanta aan fahamsiinayna maaha ninkii makhbaaradan buu wixii ka dhigayba oo si daldal soo daldal buu ka dhigay marka keeskaasi mar dhow dadku aad bay u walwalsan yihiin dadka ka qaata hawlgabka ee Djibouti waa dad waaweyn waa dad 60kii wada dhaafay dadkaasi iyo ciyaal agooma weeyaan waa dad accident ku dhaco shaqeyn kareen oo shaqada ku soo gaadhay jib ku soo gaadhay dadkii oo dhan aad bay walwalsan yihiin dad badan baa nala soo xiriiray waxaan maanta dib u soo celinay arrintaasi dad badan baa nala soo xiriiray oo dadkaasa waayo xasan ka dhex galo kullu in walo oo kulliga umadu ay si fiican ay ku dhageysanayaan dadka reer Djibouti ay yihiin dad ma aragtay aan waxa ka dhacaya dalka Djibouti hadday noqoto keeska iyo hadday noqoto xafiisyada kala dadka reer Djibouti waa dad ma aragtay aad iyo aad ma aragtay masaakiina oo dhibaato lahayn oo wax lagu dul cuno oo 3-4 kaab wax lagu dul cunay ilaa maanta lagu dul cuno marka xasan oo su'aasha aan ku weydiinayo ka dhex weydiinayo arrintaasi siyana center aba keeskaasi hawlgabka ee lacagaha lagu kaydiyo lacagtay inta laga qaadayo xasan adduunka markaad eegtid la adduunku wuxuu leeyahay xeeran adag buu leeyahay maxkamada adag buu leeyahay moohin Djibouti meesha uuna oo wax lagu xadayo laakiin lacagta inta laga baqlay xasan inta dhigtaan oo halkay ku keediyaan lacagaha inta lacagu waa milyaareen halkay lagu keediyayo meesha ay dhigtaan halkay weeyaan ma dibadda u saaraan dibadda hadday u saaraan lacagta inta laga wada ogaanaya miso dhinac kale oo baanka dhex marayaan bal arrinta noo sheeg horta dibadda u saari jireen oo dibadda ay dhigi jireen lacagtaasi wax badan dibadda ay dhigeen waxa jira account ku yaala offshore la yiraahdo oo ku yaala dhul laga daba tagin sida Bahamas jasiirada caynkaas ay ku yaalaan Malta oo lagu shubo lacago marka saqajaankana waxa baray iyagu qoladan ma gaarayso waa iska jaahiliin ninkii Cabdiraxmaan Buura waxaan baray oo nagu baray oo baabiye ragan isaga u sheegay offshore iyo waxani oo nagu baray marka waxa weeyaan dhulka ay ku shubaan xasanow intii markii dacwadii la bilaabay biya maalakiigu ay bilaabantay waagi way naxan xoog buu naxan wax badan bay soo celiyeen inaad u fiirsatay mooyaane baanankii baa Djibouti ku batay waaga dabadeed baanankii baa batay ama kaag baan ahaato oo warqad falsi imkaan hayuu soo sameeyay kaag baan oo waxba ka jirin uu soo sameeyay kaag baan kan la yiraahdo oo haybado uu soo sameeyay warqad aan fooyaba falsi waxba ka jirin oo beena waxa weeyaan ka baan kale international la yiraahdo baanan badan oo caynkaas ayay sameeyeen lacagta dhex mariyaan oo sidoo kuwa la dhex marsadaa lacagta si loo xalaaleeyo oo koonad caadi ah loogu shubtaa koonad caadi oo la yiraahdo annaga ale oo maxay baalo oo sidan loo yiraahdo ayaa loo sameeyay marka qaabka kale inka sameeyeen lacagta xoog ugu dhex mariyaan laakiin waxaan oo dhan waa laga dhex tago laga daba tagay waxayna garanayeen dhaqaaluhu inuu xisaab leeyahay oo la iska daba tagay garanayeen ma gaaraysa waxa weeyaan waxba ay kuma garanayaan dhaqaalaha waa la xadaa iyo waa la cunaa bay garanayaan marka waxaan waa laga daba tagayaa waxa weeyaan dib u umadi gaarsiinayaan laakiin waa la xisaabinaya waa laga daba tagayaa tii kale gaaladuna way bilaabanto wada ogtahay in la gurayo dadkii bangiga dhexe Djibouti waa loo yeeray muxuu ahaa ninka xukuumada governorka ka waa loo yeeray waa la wareystay rag kale oo mas'uuliyiinka ana waa la wareystay lacagii al-shabaabka meesha marayay iyo lacagaan xoog leh ee dhaafsan wixii dhaqaalaha Djibouti maraya halkay ka socdaan waa lacagaha al-shabaabka soo galiya wadanka waxa oo dhan waa laga daba tagay oo waa lagu jiraa wayna socotaa waa anagii dhowr sano ka hor sheegi jirnay lahayn sanadkii hore sheegi jirnay lahayn war waa la soo socdaa waa la xisaabinayaa xisaab weymanaysa taana dadka waxaan xasuusinayaa oo leeyahay waryaadeen waa anigii hore inuu sheegay bangiga Salaama kala baxa lacagihiina Salaama Bank kala baxa Salaam Bank kala baxa lacagihiina iyo Kaag Bank iyo waxa kala baxa waa loo soo socdaa dadka reer Djibouti waa nigu celinayaa waxaan nii sheegaynay waad aragteen waa ka xisaab la bilaabay la daba galay lacagihiina kala baxa waa la soo socdaa lacagihiinaasi way xirmi doonaan hadhowaad cali doontiin waa lacagihiina kala baxan leena dadka reer Djibouti waayahay xasan aad baa u baahantahay xasan sheer inta waa kaaga mahad celinayna inta dadka aad u sharaxday arrintaasi ka dhacaysa hawlgabeenka ama meesha lacagaha lagu kaydiyo dadka hawlgabka ee shaqooyinka joojiyay waqtigoodii soo qaatay intaasoo sanadood 65 sanadood soo shaqeeyay inaan lacagahoodii lagu khamaaro oo lacagahoodii meeshii la doono la marsado waxaas waa la iskaga daba tagay wadanku waa adduunku waa gabadhago oo nin waliba halkuu joogaan lagu xisaabinayaa ku qof dila ku lacag xada iyo ku qof hog ku riday oo qariyaba
inta ugu soo baxayaan oo banaanka la isku heli doonaa taas markaan ka gudbo xasan waxaan ku soconaynaa oo barnaamijkeenu uu yahay waxaan horta aan jeclahay farsamayaqaanka sawirada iyo codadka noo soo gelinaya inuu noo soo dhigo shaashada lambarka ay dadku ay nagala soo xiriirayaan walaalaha nagala soo qayb galaya barnaamijka waan ku soconaynaa su-aasheedii xasanow kale ku barbar ku xigtay su-aashii u horreysay su-aasha labaad oo ah bal xasanow maxkamadii adduunka maanta aad arkaysay maalintii dhaweyd salaasadii ay u dhacday si wanaagsan maalintaasina ay ahayd maalin weyn oo farxad weyn oo habeenkaasi anigu aan Djibouti Toast TV am ka daashoonayay oo ka faraxsanaa dadkuna ay la farxeen walaalahayga Soomaaliyeed Kenya iyo dhibaatada ay sameeysay ay badda doonaysay inay ku qaadato maxaa kula mana awaal iyo been iyo khayraadkaasi ay Soomaaliya ay leedahay inay qaadato bal arrintaas xataa sideen u aragtaa oo arrintaas waa arrin weyn oo wanaagsan bal bulshadaada maxaad kala qayb galaysaa sideen kuugu muuqataa arrinkaasi dhacay maxkamadda adduunku ay soo cadeysay inay Soomaaliya ay ku guuleystay badeedii ay kolkii horeba iska lahayd bal ummadaada maxaad la qaybsanaysaa Soomaaliduna maanta waxay isku heleen maalintii dhaweyd salaasadii inay noqoto maalintii calanka la taagay iyo waxa isku hagaagay maxaa ku radaa maalintii xukunku dhacay ee Soomaaliya badeedii ay u soo noqotay bal arrintaasi iyo dadkii garbinayay dadka doonayay inay badda Soomaaliya la qaatana iyagana inaad dadka u bayaamisid baan jecelahay xasan kusoo dhaw waad mahadsantahay xasan waxa weeyaan baddaasi Soomaaliya imika ma bilaamin Ingilnay socotay arrinta badda Soomaaliya oo waxay bilaabantay Soomaaliya dacwadaasi waxay gudbisay waxa jira horta dadka si aan u fahamsiino waxa jira program la yiraahdo dawladaha la sameeyo dhowrkii sanadood mar intuu yahay baan qiyaas garanay ma 6 sano ma 5 sano waxa la yiraahdaa kormeerka badaha ee adduunka la yiraahdaa waxa la eegaa inay hadalla ka jiraan dood ka jiraan inay wax isbedeleen xeebaha wadanadu ay wadaagaan xuduudaha ay wadaagaan ee badda dadku ay wadaagaan baa la sameeyaa waxa yimaada badaha dhul gariir baa imanayo bedeli karaya muxuu ahaa xuduudaha bedela dadku waxay moodaan in xuduuda baddu isbedelin way isbedishaa meelo badan oo adduunka dib loo eegay baa jira xuduudaha badda oo isbedela dhul gariir baa imanaya jasiirad baa soo bixi karta jasiiradaasi wadan bay beerinaysaa hadday doonto way isbedishaa xuduudu marka xuduuda baddu waxay ku salaysan tahay xuduuda dhulka iyo xuduuda baddu way isleedahay marka dhulkaaga wax way iska bedeli karaan xagga badda xigta qaybta badda xigta markaad bad leedahay dhulkaaga wax way iska bedeli karaan jasiirad hadduu dhul gariir dhacdo jasiirad meesha ay ka abuuranto dhulkaaga waxbaa ku beeraya waxay keenayaan inay baddaadu beerto kol kastaba qaybtaad badda leedahay inay beerto biyaha caalamiga iyo biyaha xuduudda ay dadku leeyihiin baa jira marka sanad kasta waa la eegaa sanadkii kasta ma 6 sanadood baan u manayn mar inay tahay waa la eegaa oo kormeer baa la sameeyaa wadanada xeebaha isku dowle ee wax ka taagan yihiin ama hadal ka taagan yahay ama dood ka taagan tahay baa dib yaa la eegaayo la ka soo jawaaba haddaba waqtiyadaas 2012kii Soomaaliya waxay ahayd waqtigii la kormeeriyay iyada xisaabta badeeda iyadoo halkii la eegayo oo laga wada hadlayo arrintii Soomaaliya iyo Kenya laga wada hadlayo waxay ahayd in labada wadan soo gudbiyaan bay ahayd heshiis ay isku ogol yihiin oo inay dood ka taagnayn ay badda qiyaasta ay isku ogol yihiin inay sidaa tahay ay soo sawiraan oo soo dhigaan bay ahayd xeebtina wax iska bedelin sidii horena arrintu tahay sidii markay ahayd meesha waxa ku soo baxay Soomaaliya waa tii burbursanayd ee isku ogay 91dii baabaaday intay baabaasanayd Soomaaliya waa laga shaqaysan jiray oo waxay ahayd meel nin kastaba uu faraha la galay si waliba Kenya iyo Ismaaciil Cumar ayaa u badnaa oo ka dhigtay meel ay ka shaqaystaan oo siday doonaan ka yeelaan marka raggaasi waxay ogaadeen ragga Kenya odayga Kenya madaxweynaha ka ahaa iyo Ismaaciil Cumar waxay ogaadeen inay xeebta intan xigta Soomaaliya Kenya xigta inay leedahay petrol leedahay iyo gas leedahay labadaaba ogaadeen markii ogaadeen waa loo tashaday waxa la yiri war meeshaasi waa inaan qaadanaa oo sideen u cunaa baa la yiri oo u qaadanaa Soomaaliya waa tan burbursan waqti dhowna ma soo kacayso aan ka saxeexno Kenya aan ku darno Kenya markaan ku darnana
waxaan samaynaynaa ii sheeg waanaga ka samaynayno shirkadaha keensanayna petrolka saa baa lagu heshiiyey Kenya ma aaminaysa Soomaaliya ma aaminaysa Kenya oo ma odhanaysa saxiixa sida loo geliyay waagaa Sheekh Shariif baa joogay meesha Sheekh Shariifna waad ogtahay inuu yahay nin uu soo dhisay Ismaaciil Umar oo Ismaaciil Umar aad ugu xiran una haystana la taliyihiisana Ismaaciil Umar u yahay xagga siyaasadda adduunka iyo waxaan oo dhan Ismaaciil Umar buu aaminaa uu ka dambeeyaa Sheekh Shariif ninna kama qarsoono waan ognahay si fiican baa loo ogyahay marka waxa dhacay heshiiskaasi saxiixa baa la yidhi sidan buu ku wanaagsan yahay saxiixa dan buu niyahay Sheekh Shariifna waxba kama garanin nidaamkan la isku haysto iyo waxaan waxba kama garanin Sheekh Shariif waad ogtahay nidaam dawladeed kama soo shaqeyn oo markaaba u horeysay kursiga waa la fadhiisiyey waxa lagu fadhiisiyey meeshana si nabad loo keeno oo nidaam loo keeno waa ninka ugu degan baa la yidhi dadkan isku keeni karaya fadhiisiyaa la yidhi fadhiisiyaa la yidhahday ninkan uu aaminsan yahay uu haysto walaala Ismaaciil Umar la leeyahay baa ninka gadaya munaafiqa godka u qodayaba isagay kala tashadeen warqo saxiixa buu yidhi waa saxe Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo jooga markaa oo wasiir ah oo joogay Kenya la yidhi war adaa halkaa joogay anagu ma iman karayna kharash uma hayne saxiix baa la yidhi baasho isna qalinka ku dhiftay war waxaan bilow ma iska dhaaf baa la yidhi Sheekh Shariif iyo Ismaaciil waa laga wada sheegaysto baasho waa sax ku dhifaa la yidhi qalinka oo ku dhiftay uu saxaxay asaxeexay waxay sheegaysay arrintaasi inay Soomaa ay qayb leedahay bay sheegaysay badan la isku haysto inay qayb leedahay Kenya bay sheegaysay oo waliba xagga Kenya u berinaysay oo Soomaaliya xaqeygii la baadinayay oo cirka loo dirayay marka waxa dhacay Soomaaliya 2014 markuu yimid Xasan Sheekh ayuu arrintii arkay Xasan Sheekh baa arkay Xasan Sheekh wuu cuntami weeyay sheekadii dacwad buu geeyay maxkamadda adduunka yuu geeyay caalamiga ee qaramada midoobay buu geeyay dacwad 2008 Août 2014 buu bishii 8 2014 buu dacwad gudbiyay dacwadaas markuu gudbiyay Xasan oo waxa dhacday Kenya waxay ku dagaalantay qoraalkii saxiixay haysatay bay ku dagaalantay tiri waa kan heshiis baa la galay oo heshiiska ma saxiixnay Soomaaliya way ogolayd bay tiri marka baa la yiri war heshiiska waxba kama socdaan xuduudda laba qof heshiis kuma galaan wax laba qof ay saxiixeen heshiis laguma galo nidaam kale oo lagu galaa jiray sharci baa imkana wixii la hor keenaa la yiri 2000 bishii labaad 2017 iyaa go'aan ay soo saartay maxkamadda caalamiga ay tiri dacwadan waan furaynaa heshiiskii aad gasheen waxba kama jiro imika wixiina la goyn waxa daysiin imika Kenya la yiri Kenya iska day hadalkooda waxa isla haysiin dacwadii sidii ay u socotay waxa la isku haystaana waa 370 kilometer oo kare waxa la isku haysto 400 mitir waxa la isku haysto waa meel waa qayb ballaaran waa dhul ballaaran marka waxa weeyaan waxa la yiri walaalaha yow Kenya la yiri waxaad ku dacwiyaysiin Kenya way Kenya meeshii way galgalatay waxay keeni kartaa way keentay adu dacwadii waxay socotaba waa tii toddobaadkii dhaweyd soo gabagabaysatay waxay soo dhamaatay waa ku dhawaad 7 sano kadib ay soo dhamaatay dacwadii guushiina Soomaaliya ku raacday Soomaaliya guushii Xasan oo gibla moodisiin Soomaaliya intii ugu badnayd Soomaaliya la siiyay Kenya qayb yar baa la siiyay sababtoo ah Kenya way xirmaysaa baa la yiri haddii aan raacno qariirada Soomaaliya la yiri Kenya way xirmaysaa oo bad ma yeelanayso marka waxa la yiri waxaan siinaynaa Kenya waxoogaa yar xagga Tanzania way ka soo xirmaysaa xagga Soomaaliya way ka xirmaysaa marka Kenya ma jirtaa la yiri way xirmaysaa marka qayb yar aan siinaa baa la yiri Kenya oo qayb yar baa la siiyay xagga Soomaaliya si ay u hesho bad ay leedahay iyadii oo gaar ah Kenya u hesho xaggii intii Soomaaliya wax yar looga reebay oo la siiyay marka sidaa bay ku heshay Kenya waxoogaa Soomaaliyana guushii ku raacday oo badeedii ku hanatay oo ku heshay arintiina ku dhamaatay inkastoo imika ay diidan tahay Kenya oo waan dagaalami iyo wax la halmaala ay wado waxa soo dhan waxba kama jiraan leenahay tan aan sheegayno dad badan baa Xasan uu yiri arintaasi Ismaaciil Umar iyo dawladda Djibouti xaggee ka jirtaa tan aan leenahay Ismaaciil Umar ku jiraa waxa ku tusaysaa hambalyo uu mudirin Ismaaciil Umar Soomaaliya markay guuleysatay badda waxa ku tusaysaa dadkana dhageysanaya waxaan leenahay haday jirto haysiin hambalyo Ismaaciil Umar diray oo ma hoos ahaan ugu diray iska daaba maaha wax banaanka uu soo dhigay weeyaan hoos ahaan ugu diray dawladda Soomaaliya hadda haysiin soo daayaan leenahay dadka ma jirtaan leenahay anagu taasi marka waxa weeyaan
waxay ku tusaysaa ninkan inuu maxay hayday meeshanba dagaal kula jiro Soomaalida dhanba inuu dagaal kula jiro oo isagu ka soo horjeeday guushanba uu raalli ka inuu ku farxsanayn bay ku tusaysaa uu ka xun yahay bay ku tusaysaa Ismaaciil Cumar sababtoo ah waxaan leenahay dadka taageerayaashiisa ama kuwa maxay hayday hoosta ka taageeray kuwa cadaan u taageeraba war ninka Ismaaciil Cumar hambaliyo uu u diray Soomaaliya maxayd ama farmaajo ama Soomaaliya dawladda Soomaaliya u diray waad guushaad gaadheen waan ku faraxsanahay waan anigu taageersanahay maad haysiin ma jirto anagu hambaliyaan leenahay boqol goor hambaliyaan leenahay Soomaaliya waa guul baan leenahay Ismaaciil hambaliyo uu diray inuu cadawga Soomaaliyeed halka ku garta san ni sheegaynay waata inuu hambaliyo diray haddaad haysiin bal car soo saara waa ka dawlado badan baa u soo diray Soomaaliya hambaliyo Ethiopia u soo dirtay hambaliyo Soomaaliya ku hambaliyay Ethiopia loo yiraahdo waa cadawga Soomaaliya hambaliyay dawladda Soomaaliya maanta lama hayo Ismaaciil Cumar hambaliyo uu diray ويا حسن هذا نحكره سؤال شيء كايا نحكره ودك وفايديو أذكر بارك سؤال شيء أقول جوابتي دلك سوماليا ودل ولا لهنا وحرية جيبوتي أما وقت جي تدوات كيكوريسي دقال كي أي كل شيء ما دركتي سوماليا أي تاجرة الأيسين ويدي أيسين يسي سوماليا جيبوتي xorriyadaasi ay Djibouti heshay qayb weyn bay ka qaateen dalka Soomaalida iyo madarka dawladda Soomaalida iyo shacabkeega sidee maanta ay dawladda Djibouti markuu inuu Cumar Geelle uu madaxa ka noqday sidee ay Djibouti madaxweynuhu Djibouti sidoo uu noqday cadawgii Soomaalida Soomaalidu waxa weeyaan waa meeshii quraata ee maanta dawladda dhisan Djibouti ka jirta kuwii lagu hab taagay taageero buuxda siiyay ma inuu markaasi taageeradii ay waagi ay siiyeen inaad abaalkoogii aad gudubba mise waa inaad maantooda ka shaqaysaa xasan maxaa inuu Cumar Geelle ka dhigay inuu Soomaali baabi'iyo oo Soomaalida inuu baabi'iyo uu ka shaqeeyaa oo dibtan mar waliba Soomaalida wariinay maxay tahay xasan ma dhaqaalaha ka soo gala dhaqaalo farbadan laba shay weeyaan xasanow waa runtaada xasanow waa laba shay horta mid waxa weeyaan ninka TCC daryeelaa tu kala ku dara Ismaaciil Cumar TCC buu baabiyay inuu tu kala daryeelo inaan la sugan maaha oo ma dhici karayso wax dhici karaya maaha inuu ma daryeelayo tu kala TCC buu baabiyo arkaysaa maanta inaad noqotay qashin qub bay noqotay Djibouti haddaad tagtid oo eegtid Djibouti waa qashin qub maanta iyay noqotay dalba maaha gumaysigii shalayna haystay laga cabaadayay markuu joogana waad garanaysaa xasanow daaradda ama barandaha la seexan jiray Djibouti oo dadku seexan jireen ma kanaac baa ku cuni jirtay xasan wadaarada marka la googladay caawda la dhigtay ee la rushay kuleylka xagaa kanaac ku cunaysa ma jirin hawl nadiif aad qaadan jirtay dariiqa markaad maraysay nadiif buu ahaa dhulka haddaad aragtid maantana wadankii qashin qub buu noqday muxuu ahaa ii sheeg kanaacadii baa sidii maxay ahayd shinnida kugu daadanaysa markaad joogtid badda garabkeyga iska daaba xaafaday badda garabkeyga marka waxay ku tusaysaa ninka TCC daryeelaa tu kale ku dara marka Ismaaciil waxba uma samayn karo Soomaaliya wax uu qaban kara ma jiro TCC uu baabiyo arkaysaa uu qashin qub ka dhigay waa nin makhbaarad hayn jiray baa la leeyahay waa madaxweyne noqo makhbaarad yar buu afar xaafadeena kula hayn jiray xasan waad garanaysaa kaagama waramayo wadiga intuu wadiga garanaysaa aniga makhbaarad buu lahaan jiray ninkan makhbaarad buu shidan jiray ninkii makhbaaradii baa wadan loo dhiibo makhbaaradu mu ka dhigay wadankiina cidda uu mas'uul ka dhigayna waa ku makhbaarada ka ciyaari karaya uu baahan yahay nin makhbaarada garanaya iyo nin dawaqsan oo dhaandhaan uu baahan yahay maaragtay marka waxa weeyaan ninkaasi talabaadna ninkan lacag buu u waashay waxa ku dhacay xanuunka la yiraahdo lacag baa ayaa ku dhacday xanuun lacag la yiraahdo ku dhacday lacag buu u waashay wuxuu gadayaa dhiigga dadka inuu gado ilaa wuxuu bartay gabdho gadi jiray ma ninka makhbaarada shidey waa nin gabdho gadaya oo gabdho gadaya markaaba oo naxariis lahayn iminkana dadkii oo dhan buu gadaya oo gacanta laga galiyay Soomaaliya waxa ahayd meel business uu ka sameeyo waad aragtay Hormuud iyo waxaan la sheegay oo dhan waa lacagtii Djibouti wuxuu galiyo ku dhaqaajiyay warshadan korontada ee Muqdisho ka jirta waa lacagtii Djibouti lagu dhaqaajiyay mooteerada Djibouti waa laga qaaday oo lahayd oo garanaynaa oo soo iibsatay markay iibsatayna waa la qaaday waa la geeyay marka lacag baa ninkani lacag baa maxay ahayd ninkani ii sheeg shaqad diintiisu waa lacag wax kale maaha lacag buu baahan yahay isagu meel ku guro lacagtan iyo baahidan iyo waxan ku guro lacagtu siiyo lama garanayo marka Soomaaliya oo dhan bay isaga business baa wahayd Soomaaliya burbursanaata oo lacag ka sameeya uga faa'iido badan Soomaaliya oo soo toosta oo dawlad quwada sideedii noqoto oo ku tiirsado isaga inuu lacag ka sameeyo ay dadku gubtaan ay baaba'aan ba ayaa uga roon sababtoo ah waxa taa ku cadeynaysa soobo qaraxii soobo ina qalabkii laga qaaday waa nagii soo bandhignay waana ku soo celin doonaa dadka waan xasuusin doonaa
qalabkii lagu qarxiyay soobo ee ummaddu ku baaba'day 700 oo qof ku dhimatay mar ku dhaata qalabkaasi qaybtii lamid iyadoo la soo dhaadhicinayo iyo ilaahay u bixiyay Greektu ilaahay u bixiyo ka qabatay Soomaaliya taana dib baan u soo celin doonaa videogi iyo dadka aanu xasuusin doonaa waxay ahayd 2 sano ka hor ama 3 sano ka hor baan soo bandhignay tusnay ummadda marka arintaasi waxay ku waa cadow ninkani waa cadow wax Soomaaliya dhaado cadow ku yahay ninkani marka naxis baad sheegaysaa isaga inay baabacsanaataa wax khayroon oo ay kala daadsanaato waxaan imika ula dagaalamay ma farmaaji iyo daarodiid iyo hawiyu jecel yahay maaha sidaa noocan isaga waa lacag wixiis waxba kama gelin reerahan Soomaalida shaqadiisa maaha reer ku doonaba ahaaday kuwa isagu ka soo jeedo baabiyo garanaysa garbaciisa waxa ka taagan Djibouti waxa ka taagan waa kuwa ka soo jeeday ciisihii baabiyo maxaa kuwa kala ka dooni marka isaga waxba kama gelin reer shaqadiisa maaha reer waxa weeyaan ya xasan waxa ku diinaya waya xasan waxa ku diinaya kulli dadka ay soo qoraya oo doonaya ina su'aashaasi aan ku barbar dhigo ama aan ku ugu daro waxa weeyaan dadku waxay leeyihiin Soomaalida abaalka ka sugaysa amba Soomaalida rabta inuu Ismaaciil Cumar garab joogsado ee uu haysta Soomaalidu waxa haystaan beeraan Ismaaciil Cumar say nin wanaagsan oo aad iyo aad u macaan u haystaan laakiin miyayna arkayn oo u muuqan bay leeyihiin dadka ka soo jeedo qabiilka Ciisaha ee Itoobiya lagu leenayo ama Itoobiya hadii Ormalayso hadii Afar Islaayaan hadii Tigray lagu leenayo hadii maartay Amxaar ku leenayaan dadka qowmiyadda ka soo jeedo ee halka lagu xasuuqayo برمجيدا اللي قلنا إنه داونا أو جواب وكبح حتى التحسين يدري مين وين سوماليدو بحاول ولا كرر دينيا حتى ورق ورئيسا نين جواب نين وحي رغبها إسماعيل عمر نين ورئيسا نبا وحكسوا جنين كني نين عندك كيسيب وسام الشيخنا وحبك بابية نيك وحكسوا جي ساعة كدران وحنا ريم مقدش ورينجو إسقنا أما إسداي أما وحضر لسه إنه اسكو مقنادو حقينا كوكو بنادو نيكن سكاها لنا نيكن يقولوا نيقول ما هنا مال مجالسين سومال لادون إيجا سومال لان بوريريو دركيسين أو دين عنو سعنين أقوى سنة وقارين صدق سنة دولة سوماليا نوالا كلا ديريي سيدو كل مال وقالوا ووالي وكل مال بل حقوق لنا يواك دالية الدوخية مال بقى نجري مركا نقول دالنا لنا يوحي الناس كوطعنا ويا حسن آد بأمها سنتها كل بحال جعلها يداومياشو نداومنيا يعني أنت نداوم دونتا waxaad kala soconaysiin kulliba live oo Facebook gadaal waxaad ka daawan doontiin YouTube-ka anigoo Xasan Daaliya oo ka hawlgala Djibouti Toast TV waxa leeyahay mar waliba aad baan jecelahay ku soo dhawaada barnaamijka waxa weeye Xasan barnaamijka su'aashii kala galaya kulliba korontada Djibouti amba ideedeyga loo yaqaano qaybta korontada dhibaatooyinka ka dhacaya Djibouti imika xaafad kaartiyada ama maaragtay magaalada madaxda ha noqoto oo waliba centerka ama gudaha bartanka xaafada set piece 7 piece ayaa gubatay xaafaduhu saaba gubtaan oo waxay yiraahdeen koronto gubtay sidee waxa u dhacaan warbixinna maxaad ka haysaa oo ka soo diyaarsan waxa weeyaan korontada xasanow waxa gubayay maalmahan oo dhan dhibaato gelinkan dambe horta intan dambe bilahan dambe dhibaato xoog la ka taagnay Djibouti oo dadku ay ka cabanayeen xagga korontada ay ka cabanayeen guryaha ay ka cabanayeen guriyada gubanaya marka loo fiirsadana gubashadu dabka qabsanaya guryaha wuxuu ka imanayaa sheeg wuxuu ka imanayaa korontada waxa qarxaya ama galaaseerkii ama galaaseerku waa qaboojiyaha ninba sidoo yaqaano biyaha lagu qaboojisto yaa qarxaya waxa qarxaya waxyaabihii korontada ku socday aqalka yaallay baa qarxaya si iskaga joogaan ama xarigiiba ayaa xarigii ama korontadii xarkihii aqalka marayay baa iska qarxaya keligooda gubanaya taasi waxa keenaya xasanow dabkii ku soo dhacayay guryaha waa 220 volt weeyaan Djibouti korontada guryaha timaadayay marka dabkii baa bilaa qiyaas waxa xumaaday xaafadaha waxa ku yaala baalo aqal guryaha baa dhowrkii xaafadood ba loogu talagalay oo ku dhex yaala banaanka baraxa si ay u kontrolsho korontada soo galaysa guryaha soo galaysa u kontrolsho oo ay u ilaaliso inuuna badan oo qalabka xaafadda una ka gubin marka tii yaa dayactirta ma jirto meeshii oo baali way xumaadeen warshadii korontadu iyadna ka iska badaabay wakiil ahaba jiir baa galay ninkii directorka ma garanay jiirka 22 kun ee waad cunaya meel ku yimid filimaantii waxaan ku jirnaa strange daawan jirnay wax weeg buu noo wada maaragtay marka iska badaaba meeshii korontadii weynayna waa wixii doonaa ka soo baxay cid controlaysa ma jirto korontada ka soo baxday cid controlaysa ma jirto marka wixii baa isku dhex daadatay
waxay ku tusaysaa inay dadka xaafadihii ay korontadu gubayso korontadii baa gubaysa xaafadihii oo dad aan qiyaas lahayn baa kusoo dhacaya qalabkii baa qarxaya marka waddanka dhan baa khatar ku jira waddanka dhan baa wada ololaya hadday saa ku socoto cid dan ka galaysa oo waddankiina ma jirto dowlad ma jirto oo dan ka galaysa inamadii waxa jooga uun ilmo geerisay lahaa qaadadii unbaa jooga maxaan xadaadii unbaa joogta wax dowlad iyo nidaam iyo waxba ka garanaynin oo aqoon aan u lahayn oo waddankii gacanta u galay oo maxaan xadnaa un neba jooga meesha marka taasi xasan waxaan u badaynayaa inaad wax ku darsanaysid oo adiga iga aqoon runtood kasoo shaqaynaysa korontada u malaynayaa waan kuu dayni hadalka waxoogaa way aad baad u mahadsantahay xasan sheer kuleyba waxaa jirta dabku sida aad sheegtay 220 December baa soo gala guryaha haddii laakiin December wax ka badan 380 twasanka December hadduu doono ku soo dhacaya marka waxa weeyaan dabkii korontada shidaysay haddii noqoto qaboojiye haddii noqoto baalka kale ee klimaatiyarka loo yaqaano qaboojiyahaasna guryaha qaboojiya iyo madaragtay tireegadii iyo marwaxadihii aqalka shiday waxaasoo dhan way gubanayaan oo waxaan anaa ka shaqayn jiray oo way dhacaan waxaas laakiin imika aan sida maaragtay la igu soo sheegay ama sida markuu yahay waxyaabo badan oo isbedel dhacay halkii koraankii oo koraankan Ethiopia looga yimaada wax koraankaas dhibaato badan sameeya oo waxa lagu leeyahay dabkii oo aad u fara badan baa soo galay guryaha markaas qarax baa iman kara gubasha iman karta oo xarkaha guryaha shidayana haddii dab badan ku soo dhacaan waxa laga yaabaa inay gubtaan oo guriga ay gaarsiiyaan wax dab ah hadhowtoono dabka uu qabsado oo guriyuhu ku baaba'aan markaas waxaasoo dhan control ma jiro oo meeshani 40 sano uu jooga ninkaasi agaasimaha ka jaamac Ali Geelle la yiraahdo dadka reer Djibouti inta badan ma yaqaanin Soomaalidu ma yaqaanin Ismaaciil Umar Geelle weeyaan iyo jaamac Ali Geelle waa in adeerkii labadooda abaa walaalo ah 40 sano uu ka yahay agaasimaha korontada ee Djibouti sababta halka uu fadhiyana dadka ma weydiin doonaa kale su'aasha ka jawaab doona oo telefoonka soo qabsan kara su'aashaasi marka xasano kuleyba dhibaatooyinkaas uu leeyahay dabku haddii controlka boosaha xaafadaha ku dhex yaala dhowrkii xaafadood ba boos baa dhex taala koraanka quwadiisa ku soo dhaco koraankaas markuu quwadiisa ku soo dhaco saddex qaybood buu u bedelaa qayb isagoo weyn buu imanayaa oo MT la yiraahdo markuu MT ku imaado BT wax la yiraahdo ku baxa oo guryaha ku tagaa BT-ga haddana kala baxo wuxuu noqdaa twasanka December iyo wuxuu kala baxaa December marka December waa aqalada yaryar ee guryaha yaryar ee dabka yar shita iyo u tagaa 220 wixii 220 ka sareeya guryaha ay madaxdu ay galaan raggan magaalada dhacaya ama raggan dhulka xadaya iyo meelaha maaragtay sibeeradada wax lagu kaydiyo galaasyaro badan leh sida maaragtay inka sibeeradka maxaan ku radaa kalkaliriyada waaweyn ama maaragtay sida imka Bonaparte oo kale maxaan ku radaa sibeeradada caynkaas oo kale dab badan iyo galaasyaro qaboojiye badan haysta ayaa uu tagaa 380 twasanka December laakiin wixii December amba 220 waxay tagaan guryaha yaryar dan yarta dabka yar shita wixii inta ka sareeyana waxa la siiyaa sida cali kubeesh oo kale iyo maaragtay wax la halmaala oo warshadaha waaweyn marka saas uu dabku u kala baxaa laakiin controlkii iyo nidaamkii loo shaqeynayay iyo shaqaalihii deegaanka shaqeynayay oo aad iyo aad waddanka ugu dhibsan oo mishaar yar qaata oo sidii uu doonana uu ka yeelaa ninkaasina waxa weeyaan meesha wuxuu ka dhigtay ama sida loo arkayo ama sida dadka ugu muuqda waa meel isagu iska leeyahay laakiin xafiis dawladeed ma ahin waa wax in magaciisii uu lagu qoro oo wax loo private looga dhigo laakiin meel dawladeed ma waa meel baabaaday warshadii Djibouti dadkii ka shaqeynayay iyo dadkii distribution-ga ah ee dabka magaalada u qaybinayay intuba saasay u wada forraan oo mishaaradooda iyo noloshooda way ku yartahay marka xasan waa ku soconaynaa kulliba barnaamijkii oo arrintaasi dabka ka dhacaya mar waliba Djibouti way ka dhacdaa laakiin dawladdu way u bedeshaa dadka waxay yiraahdeen korontaday xadayaan Djibouti reer Djibouti iyo yiraahdeen meeshii gubataba koraanka iyo ka xadaya dabku sidaaba dabku iyo guryuhu taanbeelay laakiin magaalada Eero iyo magaalada Harmuus iyo magaalada Plateau leedahay xasanow ana ka shaqeyn jiray nin walba madaxa iyo nin walba xoolo haystaba koraanka uu xadaa
niman dhibaato sameyn dalka ma jiro isagoo xoolo haysto weliba kooraankeena ku darsaday inuu ahdo oo anigu ka madaxa waxaa xasan oo marag madoona on caawa dadka u iftiiminaya maadaama oo dhex joogno qaybtii korontada waxa weeyaan xasan waxa jira nin jaamac dhiga la yiraahdo oo maxkamadda Djibouti ka amaad aragtay agaasime aba mas'uul ka oo la wada yaqaan xasan ninkaasina waa taqaanaa waa ninkii madaxweynaha meel walba uu dhibaato ugu timaado ama dhibaatada ugu timaado ninka daafaca weeyaan oo xaakinka guud ninkaasi waxa weeye xasan aniga kula hadlaya xasan daaliya shaqaale ka hawlgala baan ahaa idideega aniga la idaray gurigiisii marka la idaray xasan oo list baan haystaa listkaas waxa ku qoran wixii aan ka soo goynayay xaafadda madaragtay uu degan yahay ku naban magaalada xaafadda Sheraton hotelkii Sheraton agtiisa ayuu degan yahay guryahaas haddii aan goynayay xasan oo dabka aan ka soo jarayay dadkan wax ka dhaadhicinaya u sheegaya xaqiiqda markaan gurigiisii aan galay waxaan weydiiyay gaardiyaankii meesha ilaalinayay gurigan suu gurigii agaasimaha ama maaragtay mas'uulka ama waxa laba nin oo shaqaalahaygu oo watay ayaa gala oo soo eega koraan kontarka markaa soo fiiriyayna ii kaalaya kadib markaa yaan dee markaasi aan koraanka ka guurinaa markaas ninkaasi waa ninka xaakinka guud ee maxkamadda xasan dhagayhi dadka reer Djibouti ay la wadaagaan waa xaakinka guud ee maxkamadda 850 yaa lagu lahaa 800 oo kun iyo konton baa lagu lahaa waa 850,000 baa lagu lahaa presque waa 1 milyan franc Djibouti wax yar baa kale gurigiisii markaan galay xasanow koraankii aan soo qoranay waan goynaynaa inay asagoo xasanoo surwaalkiisii sita maanta hadduu dhageysanayo way dhageystaan way la socdaan barnaamijkeena asagoo bilaashimiisha uu soo baxay uu surwaalku leeyahay markaa uu yiri war maxaad goynaysiin waxaan ku yiri waan jarayna maadaama oo anagu shaqadeedii aan gudanayo sidii ummadda masaakiinta ay xaafad weynta Djibouti ba sidaan uga gooyo umar adigana kaaga goynaya markaan nidhi ayuu yiri anna waxaan ahay nin maxkamadda xukuma oo mas'uula oo dawladda meel weyn ka haya qoraankayga ma taaban kartid markaasaan nidhi aniga guriga aan ka soo gooyay xaafadda lixaad xaafadda kartaa masaakiinta aan ka soo gooyay iyo adigoo madaxa oo xoolo intaa laga haysta maxkamaddii Djiboutina xaakinka guuda ayaa lacag guleeyay sharaftaadu waa sideebo sharaf malihi markaa uu yiri anaga jaamac ali geela la hadlaya waa anigoo nool waxay ii sheegay ana jaamac ali la hadlaya ibaabka ka baxuu anu ma leeyma yiraahdaan nidhi qoraankii baa salaankii aan dhigtay xasano qoraankii baan gooyay baas uu gudihii buu galay baastoolad bila soo baxay xasano waa xaakinka guud ee maxkamadda Djibouti baastoolad bila soo baxay baastooladi markuu ila soo baxay Allahu naxariisto odaygii ila shaqeynay waa bari uu dhintay odayga baan idhahay ninkaas baastoolad dusita waa ninkii xaakinka guud ee Djibouti maxaan xasano markaasi aan ka sheekeynayna waxyaabo kala baastooladi markuu ila soo baxay aan ka yiri bar macalimo shaqaala iyo baastooladi ila soo baxay markaas tahay xaakinka guud ee maxkamadda Djibouti miyana xishooni miyana xabsooni miyana dawladda sharafteeda ilaalinay baaniyo dalka markaas hadii odaygii xasan intuu odaygii la hadlayay oo odaygii ila shaqeynay intuu la sheekaysanay baastooladi ku xigta ku hayay xasan oo beenku ma sheegayo beentu waa xaraan dawladda Djibouti iyo sababtii aniga shaqadeeda la iga fariisiyay markii dambe la heshiiyay saasay ahayd markaasaan baastooladi ka leeday waan isku qabtay dhukaan dhigtay xasano kadib hawshii faray ka baxday ninkii waan isleenay wixii aan ku sameeyay waan ku sameeyay dabadeed jaamac ali geelle wuxuu dhamaaday hadda wasiirka waa la isku wadi dimashi ninkii dambi baa la saaray waa gardarantaa la yidhi shaqaalada dagaalatay baastooladi baa iyaa ka qaaday waxaan geynay baastooladi xerada idideegan geynay kowde seekadii shacabka ku dhacday xasano markaasi ninkaasi xaakinka guud xasanow waxa aad sameeyay bal maxaad oranaysaa arrintaasi marka aad eegtid inay maad aragtay maxkamaddii Djibouti ninkii ka ahaa xaakinka Djibouti markuu aniga baastooladi qaatay marka maxaad u malanaysaa dadkii iga dambeeyay amba dadka sida loo galayo maxaad oranaysaa xasan ninkaas weliba korontadii xaday isagoo qaadanaya milyan mishaar bal ka war xasanow dhibaatada dalka Djibouti uu ku sameeyay in Umar Geelle waa tul laga seexanayn waa tu aan la iloobayn nolosheeda inta nool
ilmaha Jabuuti ku dhashay meeshuu doonaa ku dhasho magaalo madaxda ku dhasho amba maaragtay gobolada hijraha ku dhasho Jabuuti dadka yaryar ee soo kacaya ee mustaqbalkooda raba in loo dhiso ayaa loo doonayaa dalka in loo hagaajiyo laakiin looma baahna nin shalay toole meeshuu doonaa ka yimaadee dalka Jabuuti jooga oo xoolo ku urursanaya xasano taasi haddii toole way dhamaatay su'aalihii xasano kuleyba waxaan jecelahay daawadaha daawanaya inay khadka telefoonka ay nala soo qabsadaan oo su'aalaha nala wadaagaan agaasimaha amba jaamac Ali Geelena kuleyba arrintiisu way u taala ummadda reer Jabuuti iyo korontada Jabuuti halka ma ka baxaynaa jaamac Ali Geele xasan sheekh waxaan ku oranayaa waxaan ku oranayaa kuleyba arrintan Jabuuti ka socota maamulka ninkan kalidii tashada ama ninkan kalidii isku dhawaaqay kalidii baratama waxa amka la leeyahay Jabuuti madaxdii oo dhan wala isku wada yimiday oo meeshii waxa ka socda ina madaxdii oo dhan la wareysto oo dawladda Mareykanka iyo Sacuudiga oo tagay la sirdoonki meesha maxaa la isku wada tagay Jabuuti maxay noqotay meel dibadda ay dagaal ka dhacay miso meel madaragtay laga yaabay noqoto waxa la isku wada tago bal arrintaasi soo ogaada la sidii wax ku hagaagaan masaasa xasano waxa weeyaan xasano arrintaasi way jirtaa waxaan jeclaan lahaa inamada farsamadu inay sawirka aan noo soo yar tuuraan sawirka hadda yaala inay noo soo yar daayaan dadku nala eegaan arrinta Sacuudiga hadday suurtagal tahay waa waxa weeyaan وارونو بيش لحديدي بيشنا كوجنا لحديدي سردونكي سعوديغا يميدي او سعوديغيو جيبوتي هايستا او كدودايا شقدان ودا اسماعيل عمر waxa weeyaan doofarmada hira dabeecadiina madaayay odayga waxa ilaahay ku saliday inuu saxaarad huba la wareego saxaarad rasaas inuu la wareego ilaahay ku saliday markaas saxaaradaha hubku la wareegayo waa la wada bartay hadda iminka adduunkii wada bartay waa la ogaaday markii hore kolba miskiin qof nin dhalinyaro meelaha iska socdo miskiin la qaadayo loo dhiibi jiray gaalada loo oranayay kan baa shabaab ku xiran iyo kan baa ka shaqeynaya dad aan war ka haynin waxa kamida arrimahaas oo lagu qaaday oo kamida nin wariyo oo waxa jiray reer galmudug oo habar gidir oo Djibouti ku marayay transit oo ilaa imika la laayay waxa lagu qaadayna lama garanayo ninka wanjalun baa lagu sameeyay dhowr jeerna odayada galmudug way kala hadleen Ismaaciil Umar oo ninka noo soo daabay ninkaana ma noolo waa la dilay oo ma jiro ninka wariyo ahaa waa nin iska socday oo Djibouti ka yimid Ruushka meelaha uu ka yimid transit buu ku ahaa Djibouti sidii ku dhacday maxay ahayd waxa lagu sameeyay sheeg ninkii sirdoonka haystay Soomaaliya mise haysan jiray Fahad Yaasiin lagu sameeyo kan baa lagu sameeyay diyaaradan baa laga dhacay ninkii dabadeedna waa la waayay meel la marayba marka dad caynkaas buu Ismaaciil Wanjel jiray waligiiba saxaaradahan uu la wareegayay afartan maadeeradii uu dhiibtay dad masaakiin laakiin maanta waa la ogaaday sidaan ugu qayliyeynay qoraal looga sameeynay report looga sameeynay waa la ogaaday adduunkii oo dhan baa ogaaday markii ogaadayna baaritaana lagu sameeyay xasanow Sacuudiga uu yimid bisha 6deedii buu yimid oo sirdoonkii Sacuudiga ay yimaadeen oo ay wareysteen ragii dawladda dhan wareysteen waxyaabo badan arkeen dacwadna ay ka gudbiyeen dawladda Djibouti oo wadanada Djibouti jooga ay u sheegeen ay yiraahdeen ninkan ma naga qabsanaysiin mise shaqan ka qabanaa hadeed digniin bay u direen wadanada Djibouti joogay sida maxay Mareykanka iyo wadanada qarbiga ninkan meesha ku haya Mareykankina waa ka baaritaan wada oo FBI iyo CID oo tii faxay ka shaqeyn jirtay waanagii sanad ka hor sheegi jirnay waa la soo socday dadka lacagiina ka gurta Salaama Bank iyo Kaag Bank iyo dadka oran jirnay in reer Djibouti u sheegayna waa nigu celinayna reer Djibouti oo lacagiina ka gurta dadka nimanka wax la wareysanaya loo yeeray dad badan baa ayaa loo yeeray waxa kamid ah ninkii bangiga dhexe haystay ayaa loo yeeray oo la wareystay shaqa rag kale oo mas'uuliin oo bangiga mas'uuliinka ana waa loo yeero waa la wareystay wax ka soo galeen dad rag kale oo bangiga ka mas'uuliin waa la wareysto waa loo yeeray yara raali noqda waxaan malaynayaa qof baa yar wacaya joog baan oranayaa bangiga dad kale oo ka maxay mas'uuliinna waa loo yeeray oo waa la wareystay oo way wareysteen Mareykanku marka waxa weeyaan baashu way socotaa ma dhamaanin dadkana waa laga shaqeyn doonaa oo shaqadu way socotaa marka waxaan leenahay sug qof baa igu soo celinayaan oranayaa yara joogso shaqadu way socotaa oo liisku uu taxdaba yaala oo waa laga shaqeynayaa oo waa la baari doonaa lama kala baxayo
rag marka dabadeed waxa xigi doona qaybta labaad waxaan u digayaa dadka la wareysanaya loo yeero waryaadeen dhudhumanina waxaan Ismaaciil u diyaarsaday meeshiisa ruushku doonaya inuu dago Ismaaciil Umar ama shiinuu doonaya inuu dago ruushku dadka ma dhiibo isagii iyo ciyaalkiisii iyo kooxda dhan buu u dhameeyay meel ay degaan sidii uga carri lahaa dhukan uu meel u degi lahaa u samaysan lahaa buu wadaa u ka shaqeynaya inagu waxaan nii sheegaya dadkan loo yeerayo war nin kastaba waxaad isiin iska shuba saaxiibo hadii kale inagu bixi maysid cidna badbaadinaysa ma jirto cid adduunka nila hadlaysa isagu madaxweynayaashan buu la hadlaya wax u dhamaysanaya sidii madaxweynihii Tunisia islaantiisii ubadkiisii buu la xarray inagu baa meeshan nagaga tagi doona marka inagana cidna badbaadinaysa ma jirto ciidanka dadka qabanaya Mareykankuna way yimaadeen oo way joogaan oo force specialki waa la keenay Mareykanka way joogaan xarada Limoni bay joogaan Mareykanka ay degan yihiin marka rag dad badan baa la qaban doona markii dacwadu dhamaato waxaan leenahay imikaba ka hadla oo waxaad haysiin iska shuba rag badan baa loo yeeray oo ku jiro noteera ku jira marka Salaam Bank iyo Kag Bank lacagtiina kala baxmaan dadka reer Djibouti waa lagu soo socdaa kala yaa lacagii waayay Xasan waa mahadsantahay kulli baarankaasi in badan baad u digtay dadka reer Djibouti laakiin wala salaasada wixii ka dambeeyay waa laga qaadanayaa baaranka lacagaha waa laga bixi doonaa oo dadkaasi waa inay hadalka aan leenahay ku celcelinayno waa inay madarka ay si fiican u ogaadaan oo lacagahooga ay diyaarsadaan si uga bixinayaan xasan muwaadin baa soo galay muwaadinkaasi su'aalo ku weydiinaya su'aalahaas aad uga jawaabi doontaa kusoo dhawow maqlaysaa si fiican assalaamu calaykum ay warama aad baa u fiican soo dhawow waan dhow aan magacayga maadi baa la yiraahdaa waa Richard Ispanay waxaan rabay wasiishadii madartay Soomaaliya ma Felicita Soomaaliya ay dhulkooda badoodii heleen صح بعد ما إننا نجمع قطع الدميرة هاي هم اللي يساند إن عند السمين كنا ده ما كطريقة مرن ده سومالدو إنه ده هيك إنه أبا إشي ورقة نحن ندور كم هايو سيدات كتير ما كهاي بركي لويدي لكن سيدات كريج بتوت على مرور بطن ما هو صح كل يبقى مدحوينها دلكو وحو يري ما استغي دلك كنور شعبكو يا مدحوينه ما سيما ذاتي وحدين ما يساقهم باين لكن أنا حربان بعد ما إنجي دليل تريج بتوعنا هيدا ما أنت عنون لاي بحال قبل كرناتي فريق كان مريكا نمجلسة يا ربي حسن شارنا ويدي سؤال شات محاكو ترسلنا سؤال كلام والله waxaan ku tarsanayaa dadka xitaa reerka sida madartay hadii madartay maroo badii tarfoosay ma haystaan aqalada dadka reer Djibouti adiga ka jingada yaraan way ku gubanayaan mar walba hay qoran kana laga ma hagaajiyo hay waxaan jeclaan lahaa mar walba in madartay dawladda dadka dib inay u dejin karto inay dadkii hore sida ay ka yeeshay inay laga yeelay kartoonoo ka horeysay kaarteysad biiso imika siiso ka sii horeysay marka dhibaatada waa wax walba mar walba soo noqdana dadkeena jingada yara cawshada ay ku nool yihiin marka dawladdu waxa u qabanaysaa waayay waad ma santa su'aalaha hay anad bajaalan la bes aduu iga qancinayo bay wala ga qancin su'aasha waxaad caawa nagaga fiican tahay aba ku soo dhaweynaa barnaamijka Djibouti toos waliba waxaan ku faraxsanahay adigoo kaartiis dhex jooga aad iyo aad baan ku faraxsanahay maadaama iska jooga anu London baan jooga ku noolahay laakiin si xaga horeyshada xaga ku dhashay waliba ku dhashay yes waka aad baan u mahadsantahay waaye وكان سؤاله وكان جوابه حسن ما قليسا والمقليا ملومان dadkii reesiis malumayaan dadkii reesiis waa ka muxuuha soo dhawaanayna mahdi horta ta u horeysay dumeera mar hore waan ka hadalnay waana runno inaan ku soo darno maanta way fiicnayd arintaasi anigu waxaan isku aragnay Geneva shirka qaramada midoobay ee kolba Geneva shirka lagu qabto waxaan isku aragnay wasiiro dawladda Soomaaliya ee dawladda Eritrea kamid ah isku aragnay laba wasiiro dawladda Eritrea isku aragnay labada wasiir midna wuxuu ahaa wasiirka shaqadu ahaa ka kalena wuxuu ahaa wasiirka difaacu ahaa labada waan is aragnay waan sheekaysanay fursad baan u helnay inaan sheekaysano iyo la taliyaha madaxweynaha mid la taliyayaasha madaxweynuhu mid kamid ah yaan is aragnay waan sheekaysanay fursad baan u helnay safiirka Eritrea uu fadhiyo meesha shirkaasi marka kafeegi markii la cabiyaan sheekaysanay arintan dumeera waan ka hadalnay waxaan horta dib weyn baad noo geysateen baan ka Eritrea dib xoog weyn baad shacabka Djibouti u geysateen
waqti uu Ismaaciil Cumar gilgilinayay oo uu dhibaato la isku socday oo ciidanka xiisad ka dhex taagnay ayaa dagaalkan uu abuuray Ismaaciil Cumar inaguna waad ku raaxdeen Ismaaciil Cumar Maxamed yeelin baan ka helay dadka reer Jabuuti wax yeesheen annaga waxna yeesheen waxay yiraahdeen xasanow anagu wax gudaha Jabuuti ka socday ma ogeyn laakiin ninkaasi Ethiopia noo soo raacay oo khatar baa nagaga soo socotay meesha waxaan arinkaasi u dhaqaajinayna sidaa ahayd isaguna inuu bilaabay oo gool na gelinayo waan fahmnay yiraahdeen oo gadaal baan ka fahmnay imikana hadday dawladda timaado Jabuuti dawladda hadday timaado macquula oo aan isfahmayno waan dhamayn karnaa bay yiraahdeen oo anagu wax cadowtinimo ay ugu hayso Soomaaliyeed ma jirto anagu Soomaali cadowtinimo ma hayno dad Soomaaliya cadowtinimo ma hayno cadowgeygana maaha Eritrea waxa dhismaheega iyo jiritaankeyga balaba Soomaaliya yiraahdeen wixii Soomaaliya ka soo jeedana anagu cadow wixii Soomaalinimo ka soo jeedo Soomaali ka soo jeedana magaca Soomaali ku aftirsanayna anagu cadow lama nihin bay yiraahdeen waan heshiin karnaa marka waxa weeyaan taasi haddii maxkamad la geeyay Britoole iyo haddii wada la bilaababa xal way jirtaa dumeer xal way leedahay laakiin nin baana xal doonaynin oo ciidanku iskaga jeedinaya inuu dagaal jiro inuu buuq jiro nin bay dan u tahay oo ciidanku kaga jeedo waa Ismaaciil Cumar si ayna ciidankani ugu soo jeesan oo ay gaduud uga dhicin waa ina meel lagu baabi'iyaa oo lagu guraa dab xaabada dabka lagu guray laga dhigaa oo meesha loo jeediyaa markaas isagaana ogolayn ee xal u jira Jabuuti way jirtaa dumeer xal way leedahay أنا كويتا أنا وهذا الهبالة والرجال سنكايا أفكوجا بلبل نواد ورا يدوي له إلهي هذا بلبل سنا نكا بلبل تجاري تري أنا أقول لكم المسؤولين بدن أو يعني دولة دريترية كمدا هذا الكلام ما هو هذا الكلام مدهم بيرادين حل أوليه بيراد نقول إسماعيل عمر أمبان سهيناي ذات كري جيبوتي دولة جيبوتي اسمها نيرة ومدة جيبوتي اسمها نيرة دين مركا حل أوليه تكلا ذات نقوليها يكون بغنيان horta waxa laga sugaa nin umada ka naxaya ama dan ka galaya ama dawladnimadii garanaya ayaa wax laga sugaa ninkan Ismaaciil Umar waad aragteen waa nin maxaan cunaa iyo maxaan xadaa leh marka wax laga sugaayay ma jiro umada iska dhibaataysnaan dhibtaana way jiri doontaa intuu kursiga ku fadhiyo maalinta aan isdaafino kursiga uu dhaafo bay dadku rajo yeelan doonaan oo laga hadli karaa maxaan qabanaa iyo maxaan saxnaa sababtoo ah meeshani ma joogaba waad iska arkaysiin oo ninkan nin tuugnimo ma wax kale shaqo ku leeyahay maxaan xadaa iyo maxaan dhacay iyo reerkaygu maxay helaan iyo intaan buu joogaa meesha ma garan marka ciyaalkaygu maxay cunaan iyo buu joogaa meesha ma imikana Paris buu joogaa way sheegayeen sida wararka soo saartay dawladda Djibouti Paris buu joogaa ciyaalkiisii oo lagu wataa oo ay shax kale dhigayaan kulli waxun bay meelaha maleegayaan kol shandada lacag la walwaalay iyo kol ummad loo dhigaya shax waxun bay wadaan dawlad lagama shaqeeyo ummadda laga shaqeeyaa oo ummaddu ku maqan yahay حسن آد بعد ما حسن تاعي كل برنامجكي واحد تونا وقت دير بجونا وجعلها يدتكم إنه نغلسوا غير كلام كل داودها نداونا إنه محلنا كسر برنامجك كويم كتير أو توصل داونا يقبل كده داونا حسن سؤال شيء ويديني وحويان ما شاء الله عدو ما درك جيبوتي واحد بدن كوك واحد بدن أوصل ديارية تذكر جيبوتي وما توحي نروح حنتان تذكر نروح حنتان هذه سومالية هاي هي هذه دلالة شاركين إثيوبيا هاي وعيد هذه تذكر جيبوتي درين كيبا كلمة وايو وحيس محاك كتر هذا المكان اللي وحيد هذين دت لغض الصعدة أو حين الدولار اللي بسمينه أو سيد الدولار اللي جاي يلي أو يركوجا دبركوجا يركو أورله وحامل على حداي عرورتي وحبرتي هدو بيلودي هاي فؤاد يوسف عليه وكله يخار كلام بدر جالش اللي يقول ليناي كرنتدي ودن كأيسا وقت جاي دون تبعش بيه ودن كل عبية أي بيجين معيشتي وعرك اللي يقول عليه وحاسو لنا يدل كده فرديان دتكي دت بمتين بينين دتكو ودتكو ويدم قدر أو دتكو وحبي ديدان وحنا ويالا وحنا ويديدان ومد رجبوتي ما حاك هذا جدد لغدور صعدة يكلين دتكو فمحد كل جواب سؤال شاسنا أو دت كان رنس waxaweyaan xasanow markaad qofka aamintid waa la aaminay dadka reer Djibouti waad aragtay wax qabyaalada oo qolo iyo qabiil la iska kala ilaaliyo qabiilba qabiil iskama ilaaliyo reer iska ilaaliya ma jiro dadku way is aaminaysanayeen oo dad iska wada degan oo wada nool bay ahaayeen wax dhibana kama dhex jirin dadka qolaad yar oo gumaysigu sameeyo cafartii ciisa dhex dhigay ma wax inta dhaafsan ma jirin dhib inta dhaafsan ma jirinin marka waxa bilaabmay
raggan kursiga markay ku fadhiisteen raggan baafur rabaa oo xasan guleed ugu horreeyey waxaa la bilaabay in ummadda la kala diro reer jabuuti si loogu maamulo waxaa la yidhi madaxaan isku gelino mid kasta madaxaan isku gelino ummaddii haddana iyagii baa laga shaqeeyey markii la isku geliyey haddana iyagii baa dib looga shaqeeyey marka kursiga intay ku fadhiyo dhanba dal looma shaqeynayn ummadda laga shaqeynayay ummadda laga shaqeynayay aad baa umahadsantahay waxaa ku jira khadka muwaadin reer jabuuti ku jira oo aad iyo aad u wanaagsan oo mar waliba barnaamijyada jabuuti toos ku xidhan oo si fiicanna ummadda ula wadaaga barnaamijyadiisa iyo fikirkiisa waayo kusoo dhawow kolleyba waa laguuda maqnayaa bal su-aasha aad doonaysid amba fikirkaagu wuxuu yahay aad kala qaybsanaysid jabuuti toos maxay tahay xasan su-aalaha weydiinaysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. adiga horta aad baan kugu mahadnaqaya xasan jaali codkaaga kor u dalac xasan jabuuti aad baan kugu mahadnaqaya xasanow garan adeecadda cajiibkana ee jabuuti tooskii aad baan ugu mahadnaqaya marka labaad ninka xasan jar ilaahay xasan jar xarada ka jeestaysiye wallahi barnaamijku soo diyaarin ninkaas iyo hawshu ku jiro saddex ama shan sano ugu dambeysay wallahi jabuuti inta ninkaas hawl kasta u galay wax weyn baa isbedelay horta iskaga fadhiya buka wallahi maanta wax weyn baa jabuuti iska bedelay shantaas sano ugu dambeysay aan ku jirno wax weyn baa isbedelay haddaba su'aalahayga inaan weydiiyo doonayo toddobaadkii ugu dambeysay si ay Facebook ula socotiin ama bulaha barashada ula socotiin Facebook socialka waxa la yiraahdaa كلابك جيبوتي كو ماشاش كي اللي عيارين كلاب كوب كاتونكا مركي عيارين waxay iska soo sameeyeen hees ajiib ay sameeyeen bahay iyagoo tababar qaadanay oo kareerad koobka adduunka qayb galay heestaasi waxay ahayd intii laygu wirsanin amba wadku idilin amba waalida ibadin wax mayla qaban karaysaa walwalaayo waayahan waa laygu yahay aniga marka heesta aan furtay waxaan idhi intii laygu wirsanin amba waalida ibadin يا أبو ودك يدين وحميلا قمنا سعينا مدحونا ودك كل جديد والولا يواليها ولا يقول هو تعال بقى ولا مرتي جديد شيء في جيبوتي وجديد مركا حصل خير حرادين كستون القراوين وواحد سنة النسية بس طاي حلقة قرن جيبوتي قابل محل يقولوا جديد وحقوم ميساج كوست على بحسن مدينة ماشي اللي بدو مدينة وحوين حصل شهر حراد إن أنا اللي بدو يكون سجل طبعا في واحد تجي مركا جامعة جيبوتي صبح معايا هي واحد تجي دك سومال لام بتجي أنا استومال لنا أفر بلاد بهذا الجوج واحد سلكوا النسيل من يسكون بينه بهذا علي على كاستجون واحد رجع سعيد له وقت يستجون رجع شوف عم بيها يرى وحيني له إن هنقول جبوت يكون قوي شق عن كوتين وسيك الرواية تبدأ أيام كوكي لنا وسيرد استومال لنا تقول شقي دوتا أنا واحد قد بحي الجامعات جبوت قايت لقضاها آخر البروجكت قايت لنا وقت بحي إذا مش شقي له وسيرد بري قال له يقول أيو سليمان حول الآر هناك لنا روروني هالجمال وين استومال لنا جوا ayaa u doortay ID card wax la yiraahdo kaarka Soomaaliland u door waxaan xasan weydiinaya aara Soomaaliland awlad oo ku dhashay kaarka kaab inuu Soomaaliland maanta uu bariyo waraqada weydiisto ID card si uu yiraahdo oo aabina waraqada cali sameeyay ku bixinay waxaas soo Ismaaciil Cumar ma badin dadba maanta ku oranaysa baxfur nabadu waraq iska daa ciisa qaar markay maanta ay caroonay ayaan maasad waxay rag kala ka yiraahdo waraq ciisa daaya aara iyo kuwa dibadda jooga ninka naanaab ka baray dadka ciise adduunka maanta saa u naanaabay meesha ku dhashay ninka baahidaas oo iskaga ma xasan waa weydiinaya su-aasha saddexaad waxaa weydiinaya adiga xasan daaliyaa ku weydiinaya xasan daaliyo adigoo kaarsiis ku dhashay reer kaarsiis oo lagu garanayo kaarsiis ku dhashay inuu maanta Ismaaciil Cumar Itoobiya ku dhashay inuu wadankaaga kaa xanibo waqtigaa miyaa rajaynaysa xasan oo nolosha inkastoo aan xaaladdeedii ka soo qaystay uu Jabuuti ku noolay uu Jabuuti jeclay إنه ما تستعيل عمر محرمة أكيد كار فربنا وبقاء حسب بقاء وكلا كل شيء هاي دينا عن جلا كذا حسن شير حراري فريش كل شيء كار بدون قربها ما تعرفوا جوتين ده كوضع كجيبوتي أصل ككورة ده كجيبوتي ولا جوتي أنا كضد بنا هاي مقالة دي بس كانت فيه ضد كار كني تقفنا مع سجلا كذا كل شيء ضد وابدش أنا سوق جلستاني وكلا لكن يكون كل شيء إنه عمره يتوب كل شيء ترى كنا حرمه إذا هو أركي وهذا استواش ده صدق حد ودينه استواش أفضل حسن شير حراري ودينه قبل حاول سعد إسماعيل مثل مستفيد فيسبوك وجود ديديها بعثة ومحا قبيلات كتير قبل العقد توصيلية ومستفيد فيسبوك عنده قبل العقد كده كلو ريجيبوتي عم ريجيبوتي أنا بعيسى هذا واحد كلو قبل ده عويره إسكول كيكوش كيسين يستبيرفين وكله سيد إسماعيل سعد وكلا سيد محي وبيربوك وكلا سيد محي على ماويل وكلا ربنا سيد ورقة وكلا هاي يستسوي وكلا
ريجي بتقول على استمرارية قبضنا أي عاون بين مادة فيسبوك استوى على عليهم ليش أنا حاسس إنه ويدين ورجع لا وديك ديري أبا أبا ستة أبا أبا ستة حسن أي حسن دريات بكم حسن شرح حريات بنيكم هيا إن شاء الله إلهي أنا ديك بوليستو أربعة نبي رجينا ولا لاي سكان النولاد أنا وأنا بفرح سنة حلي كستا بعد دينا والله قبلوا مالته يو إس أي بابا واحد إلى هو توضح كان يدق وضح كان يدق ودني عليه إلى هو توصل بعد بعد مالته قاعد قبلوا واقع جماعات حسن دالية حسن حريات يجيبوا قاعدوا صاري هلك هيا إن شاء الله وين بوليسني إن شاء الله وين بوليسني السلام عليكم عليكم السلام ويا حسن موادك والمقليسي سؤال بدل بدقمشة نقاس آد بوقي روضة أنت بدل وسوقلا وقف ما درت وحبرتي وجامعتك بحي وهذيك أركي سومالين إلى كي هذين حسنوا وحاول هذا بريم منستر كي شقاق سيننا سيلعي وهذيك أركي ماشى جيبوتي بها كل خط كي كلا عراء جيبوتي كل شيء إلى سومالين ديو ويدستور قضاء ورقديه وما درت إليه وقسيننا يكون سيننا عندك ودك كل شغل نوح كل عليه مصيبة اللغة والكي محمد علي فرشيد الله نحرسته إلى هين حرسي جناح ورابيه مصيبة اللغة لاي ما تنكم وضدايو نجحابنا يسالي ويا فالأرنتي يسوالي كسعة وحويان هرتا وكما تسيهي إنك دور جير ونقل قيب قال وارهن وكما تسيهي وضلنتي جيبوتي وحبرتي مركا وحبو أركيا وكهنيا intaan xasan su'aalihiisa ka jawaabin horta sawirkan baan dadka shaashada u saaran baan yara fahamsiinayna dadka ragga halkaad ka arkaysiin ragga carabta saddexda nin carabta laba xagga gadaal ay fadhiyaan wajiga ay ku sitaan baashi maaskiga iyo ninka halkan hore fadhiya carabka saddexdaasi waa amniga Sacuudiga waa sirdoonka Sacuudiga oo Djibouti mid bishan lixdeedii waxay la joogaan hor fadhiya dharka cad sita askariga dharka cad sita waa hor fadhiyaay waa ninka ciidanka xeebaha haysta oo inaca la daaqo Ismaaciil Marmadeerayiin waa ciyaal gaaraysa laba kale askari booliskiina waa halka jooga nin boolis ka socda waa ka sheegay jooga nin kale oo waxa halka jooga jaandaaranka ka socda ciidanka jaandaaranka ciidanka waxay leeyahay madaxtooyada ilaaliyana gaar darbilkaaga la mid baa ka socda marin gadaal jooga wasaaradii arrimaha gudaha joogta dadka socda marka waxaan ay u yimaadeen arrintan ay Sacuudiga u yimaadeen waa arrintii hubkii ku soo xidhan aan sheegaynay 19kii bisha laga dhaadhiciyay laga dhaadhiciyay markabkii Shiinuhu keenay xeebta Djibouti laga dhaadhiciyay kadibna loo walwalay ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka madaxtooyada iyo saldhigyadooda la dhigay kadibna waxa loo walwalay oo la geeyay xoutiinta loo geeyay waxa ku jira gantaalada lagu garaaco Sacuudiga ku jiray oo ku jira hubkaas marka arrintaaba u yimaadeen dacwadaaba u yimaadeen ay meesha u yimaadeen marka waxaan leenahay dadka sawirka waxaan tusaynaa inay wax socdaan arka waxaan leenahay bangiyada Salaama Bank iyo Kaag Bank iyo kala baxa lacagiina dadka Djibouti waa niiga digaynaa war kala baxa Britoola ooyina ninkii imika ba seexdo aday ku jirtaa waxba bari ooyin kala baxa imika waa nii dignay lacaga waa lagu socdaa waad aragteen waxaan nii sheegi jirnay waad aragteen waa ka dadkii la gurayo ee la wareysanayo ciidankii qabanayna way joogaan markay dacwada iyo wareysigu dhamaadana ciidankii guraya dadkan uu joogaa waa diyaaradihii waa diyaar marka waa laga shaqeyn doonaa dadkan waanagii hore inagu sheegnay shaqaduna way socotaa ee wax weyn wixii kala baxa bangiga cid bari ni maagaysa ma jirto mana garanaysiin bangiyada taqaaneen BCE iyo Andosias iyo wixii taqaaneen lacagiina iska dhigteen taqaaneen hore aan garanayna meel loo raaca lahaa iyo cid loo raaca lahaa iska dhigta bangi aan meel ka socdo la garanayno aan hawada la socday wixiina meel bari u raacdeen ma helaysiin imika kala yaacanahay tii haddaan soo noqdo su'aalihiina kiina weydiiyay wuxuu yiri kooxdii kubadda oo heesayo heesta ku heesaya maxay waaligu weyn yahay waxay u heesayaan ciidankaasi waxay ahayd hawaka qoraalkii aan kaga hadalnay 19kii bisha markabkii keenay hubka ciidankaasi kubad muxuu ahaa kooxda kubadda waxay u heesayeen ay la heesayaani waa ina maxay hayday intaana la igu wiirsan ama aanan waalan ciyaartay tagaanba 8 ama waxa loo soo dhiibayaa 6 baa loo soo dhiibayaa marka meesha waxba kuma hayna yiraahdeen qaash wax ka beddelay yiraahdeen waa ka imka la beddelay ninkii maxay hayday teamka xakumay ma teamka ninka ciyaarsiinay coachka daa la beddelo waxba iska beddelayaan dadkani mishahar buu u baahan yihiin maxay hayday ciyaartooyda mishahar buu u baahan yihiin oo ciyaalkii Ismaaciil Umar baa majari fadal soo lacagtii wadanka maalin kastaba
oo waxba waxay ku qabtaan jirin faa'iido waddanka ku hayaan ay jirin oo soo biireen raggan tiimkii waddanka u ciyaaraya ama kooxdii kubadda u ciyaaraysana gaas bay daacayaan oo bilaa mishaar yar wax yar ku quraac ku qada tagaan iyo ku casho tagaan ma hayaan habeenkii ma garan marka waxa weeyaan ina waxay la qeylaya war waxa weeyaan wax waan samayn karaynaa kubadda meel waan ka gaari karnaa walaalaha wax nala qabtay u jeedaan waxay la qeynayaan ta kale uu yiri xasan waxay yiraahdeen inta la igu weysan ee waalin la ibadin amba wadku dilin wax ma ii taraysaa bay kaliya madaxweynaha arrin cajiiba heestan ilaan haddii ay xasalow hadal ay ku jawaabaan ay ciyaartooygu ay hadlaan ilaahay waxa aan u baahanahay waxaasaan dhibaatada baan haysata dawladda dhinaceedii waa ka dhisanahay haddii waxay yidhaahdeen dib ugu waa la duuduubi marka hees bay ku jawaabeen Soomaali xasan waa sax hees bay iyagu ugu jawaabeen oo ku tabiyeen hadday hadlaan waa runtaada iminka way iska heesayaan laakiin dadkii wax garanaya way fahmayaan heesta haddana xasan oo tii soo noqdo aara kaar weydiistay buu aaraheenii joogay Somaliland aara yare ayaa kaar weydiistay Somaliland weydiisanaya kaar waxa weeyaan taas way haysataa dadkii reer Djibouti oo dhan bay haysataa warqadii lagala dagaalamaya isaga keligii maaha dadkii reer Djibouti baa lagala dagaalamaya warqadii dad aanan shaqo ku lahayn waddankana waa loo qaybiyaa oo waxay ku helaan 4 daqiiqadood ta keentay inuu aare maanta qaxooti ka noqdo waddankiisa oo ka naanaamo ka warwareego xasano waa cadow aniga ila cadow aan haysta cadow baa waddankii gacanta u galay noogu soo hoos dhuuntay ciisiya waxaan jirin noogu soo hoos dhuuntay cadowgaasi waanaan meeris ka saarnaa cadowgaasi waa inaan meeris ka saarnaa waa inaan cadow lagula xisaabtamaa sidii cadowga lagula xisaabtamaa sidii cadowgana loola dagaalamaa waxa weeyaan ma aha siyaasad waxa la isku hayo waxani waa cadow waxaan la dagaalamayno waa inay dadka reer Djibouti fahmaan waa cadow oo keenay inay dhalintii waddanku maanta warqada waddanka la weydiistaan oo ay naanaabaan Soomaaliya dawlad la aqoonsan yahay bay maanta wax weydiisanayaan haddii dawlad la aqoonsan yahay adduunka laga aqoonsan yahay la garto waa la gartaa waa qaxootiyoobin kartaa waa naga wadannada baa qaxootiyoonay laakiinse Soomaaliyadii baaba dadaalayadii baaba rafaad ku jirto kadeedan marka ninka iyadoo rafaadsan ba wax weydiisanaya waa ninka si liitaba Somaliland bay ka dhigan tahay marka halka baa la gaarsiiyay gabadha ay sheegaysid diga lahayd lacag baa laga haystaa iskooladeeda gabadha arinteeda ma gelin anoo been ku sheegeen oo su'aasha kaaga ma jawaabi karayo sababtoo arinta gabadhaasi si fiican ma warisan war fiican kama hayo waxaan u malaynayaa inay farxiye kaga roonta farx ku kacay garoonta arintaasi warka fiican ka haysan u malaynayaa waxaan ugu celinayaa dadka xasanow sawirka halka yaalay waa sirdoonkii Sacuudiga waxa yimiday oo baaritaan ku wada hubkii laga walwaalayay Djibouti ee lagu gurayay xootiinta loo dhoofinayay laga shaqaysanayay weligoodba ay isdaga maraan ama iska diidaan waxayna ogeyn qoladan jaahilkeen ma gaaraysan waxayna ogeyn in adduunka nidaamyo kale la iska shaqeeyo la iska daba shaqeeyo la isla daba socdo iyana ogeyn iya wax naga qaadaya dawlad baan nahay sheekay iyo iska dhaadhiciyeen waxa weeyaan ogeyn mar dhow wax dhici doona hore waan igu sheegay sanadka hor baan dadka reer Djibouti ni sheegay inay imanayso xisaab oo la isguri doono waa taa bilaabanteed arkaysiin in dadkii loo yeedhiyo waxaana nii hayaana bayaaritaankan markuu dhamaaday waraysigu dhamaaday waxaad sugtiin file baa soo baxaya faylka ama liiska soo baxaya ama fayl baa soo bixi doona faylkaasi rag baa la qaban doonaa waxaad maqli doontiin caawa boram waxa ku dhaadhacay commandos Mareykan oo qof ka soo qaaday Hargeysa commandos Mareykan ku dhaadhacay xalay oo dadka soo guray jigjiga ku dhaadhacay buuq caynkaas oo bad maqli doontiin muxuu ahaa kaarte agteeda laga qaaday mid haramuus baa 10 qof laga qaaday aad maqli doontiin buuqaad maqli doontiin rag la gurayo una wax gurayo jimba u iman doono guri doona dadkaasi dadkii gurayana waa la diyaariyay meelahay joogaanna waa lala socdaa dad baa ka shaqeeya wax kala qabanba oo xirooyinka dhex jooga oo ka shaqeeya oo daba gura halkay joogaan inta la qabanayo iyo inta dad la doonayo in la qabto way socotaa waxaan sheegaynaa ragga loo yeerayo bari badbaadi maysiina imika marka lagu yeero waxaad haysid iska shub oo iska dhiib nin kastaba iska dhiibo oo sheego waxaan ku darayaana bangiyada Salaama Bank iyo hormaalkii Kaag Bank iyo kala baxa lacagihiina waa la xidhi doonaa waa lagu soo socdaa waxaan samaynayaa Maxamed Saciid Geedi ninkii la oranayna uu baxsaday waxaan leenahay walaalkay badbaadi maysid Ismaaciil Gudeyn maayo ragga Mareykanka isku dhiibsaad u badbaadid waxay si nasiib aan leenahay Maxamed Saciid Geedi oo dadkiisa wixii garanayo gaarsiiya maalin imika intii ugu dambeysay gaariga ugu dambeeyayna la kursada ugu dambeeyay Djibouti yaalana uu kala baxay shirkadiisa yar Aramex ninkii gabadha ka qabay baa ayaa gacanta ku dhigo haysta wixii uu la shaqeyn karay dawladda ninkaas uu la shaqeeyayo ku tufaa Maxamed Saciid Geedi ku tufaa imika ninkii yaraa uu soo dhisay gabadhiisa qabay marka waxaan leenahay Maxamed Saciid Geedi waa kugu maqan yahay Ismaaciil Geedi Ismaaciil Umar kugu maqan yahay badbaadi maysid isku dhiib ragga muxuu ahaa ragga Mareykanka waxa haysid ku shub hadday de tolka awood leeyihiin ku badbaadin karayaan waa tamaam bay iska joogan kaaga
haddayna ku badbaadin karayna walaalkay waxaan leenahay anagu isku dhiib badbaadid annaga faa'iidaad noo tahay haddaad maraykanka isku dhiibtid oo u warrantid wixii aad ogey ummadda Djibouti faa'iidaad u tahay waad ku mahadnaqi doontaa waxay kugu lahayna waan ku dhaafi doonaa waan iska kaa dhaafi doonaa ويا حسن وأكوس علينا برنامج كيني أنا قصور بجبرين هذه تولى برنامج كا ووقت في عنو تشوفنا دت كان داوري أنا أدور فرحسن هاي أنت داوري سيحد التوس هو جرته أنت قدرك داور دكتور علينا كسر هذا برنامج كي جبوتي توس يا حسن دالي وحن حسن ودونا إلى كوديو سؤالي أكوسو بجبريني وحوي حسن واحد عيدا كبوليس كا وحتى إمكان مش هاي دليل بدل إني ما درك تجديل كسمية وقران بدل ليسو سمية oo ku hayaan xerada nagaareed iyo maaragtay arad Ismaaciil bal arintaasi iyo dhalinyaradi qaaciyad yar badan baa kacay xasanow oo magaalada dhexdiisa warqado qoray maxaan ku radaa hadlay oo guriyaha loogu daatay bal arintaasi xasanow arin dhacday toddobaadkii dhawey sideed u aragtaa agaasimaha booliiska Cabdilaahi Cabdi Faarax iyo arrimaha socda iyo ankeed ka socda isaguna kulliiba nin waliba uu og yahay wixii dambi ku soo socda iyo siday wax u socdaan haddii Mareykan tahay iyo hadday tahay dawladaha kale oo u wada yimiday sirdoonkoogiiba dalka Djibouti maxay ku dhamaan doontaa xasanow dadkaana maxay yeeli doonaan lacagihii meelaha ay dhigteen iyo sidii looga daba tegi lahaa iyo sidii wixii ay dibadda u bixinayaan sidii loola socon lahaa buur cali soo qabo hadday suurtagal tahay xasanow buur cali soo qabo buur cali soo qabo عبدو بالبلاد سوق بعض السوق وسوق بني سؤال شاسي وأنا سوق بني وعويان دليرة لحيح حسن ورب حكمين ويجرت لكن وان مقلي ورب حكمين نين كان وحنا جينا إني dadku nala soo xiriiraan dadku arrimahaas iyo nala soo xiriiraan ay warbu wax naga siiyaan inta yihiin iyo sabab loo xilxiray yara jeena laakiin tii waxaan ugu celinaynaa dadka war salaama bank horaan ugu sheegnay sanadka hore baan sheegnay in xisaabtan maanta socota imanayso salaama bank kaag bank lacagiina kala baxa dadka reer Djibouti wixii niga yaala waan sheegaynaa imikaba kacaankanna uu dhammaaday waqtigiisu kacaankanna waqtigiisii uu dhammaaday oo waxba ka cabsanina lana dadka sababtoo ah maamulkeena geela waa uu dhammaaday waad aragteen beenka inay dawlad ka jirin Djibouti isla meelahan buu warwareegayaayo yaan dacwad ku dhigaayo maxaan sameynaa iyo afartii isagii ubadkiisiiba meelaha warwareegayo ka shaqeynaya dad marka waxaan leenahay dadka reer Djibouti waxaad ka cabsatiin ma jirto cabsidii way baabaaday wixiina kala baxa salaama bank iyo kaag bank ba kala baxa saaxiibo inta imika ay waqti imka haysatiin kala yaacaan leenahay sababtoo ah waa mar dhow waa lagu daadan doonaa waxani way arrimaha ni sheegay waa kuwa yimideen adarkaysiin waxaan leenahay warama ninka ragga loo yeero dhanna waa ina warkays ka siisiin sababtoo ah Ismaaciil meel buu diyaarsanaya isagii ubadkiisii waxaanu la soo baxbaxayo Faransiiska ugu soo noqonayo wuxuu la kulmaa safaaradda Ruushka iyo dawladda la kulmaa meel uu diyaarsanaya ninkani warkama haysiin isagii islaantiisii ubadkiisii iyo inta walaalihii la ordi doonaa inagana banaankan dhiga tagi doonaa marka ni badbaadin mayso Ismaaciil waqtigaas ni badbaadin mayso Ismaaciil baan galiye Ismaaciil baan yiri imika waxaan siin maalinta nila yeero nin kasta baa shubo waayahay waan ku soo dhaweynaa walaalkay aad ku soo dhaweynaa kulliba barnaamijka kulliba la socotay adigoo muwaadin reer Djibouti xaafadda lacag ku dhashay waxaad doonaynaa inaad barnaamijkaaga hore u gasho salaamaya aqoonyahanka kula joogana oo salaamaya adigana oo salaamaya may aniga de waxaan yara daba socdaa inaan soo hadlay mar dhaweyd oo ka hadlayay wax aad u wanaagsan waxaan u sheegaynaa qowmiyadda ciiseen annagu ka mid nahay iyaan u sheegaynaa cadowgeennu galbeed iyo city iyo Djiboutiba in ay dhibaatada ugu weyn ay tahay waa big bota iyo afartan la joogta weeyin haddii dawla rabana waa in gacmaha loola tago ragga
waa in gacmaha loola tago oo dhimashada halkaas si ka dhacaysana ragana ku shaqale oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi haddaad iga maqlaysaan wax weyn waxaa anigu rabaa inaan u sheego ummadeenna su-aasha aan weydiinayo aqoonyahankan caawa martida kugu ah ee ilaahay subxaanahu watacaala aqoomiyadda ciisa nasiibka u siiyey waxaan doonayaa inaan la qaybsado dadkaygoon idhaaho waar ninka garani lagu dilayo iyo ninka garba ciise lagu qalay ragga ka shaqeeya jabuuti bay haystaan oo waa jufada iswadata cirka dhulka badda sirdoonka madaxtooyada waa dadka ciisaha ka dhigay bilaa dhaqaalaha waa dadka 20 sano u dhiibtay wasaaradda taxliinta dadka la garanayo marka macnaheedu nooga sheekaynayo iyagoo na dilaya inay nala ooyaan waxaa soo wax dhici karaysa ma waxaa caawa anigu weydiisanayaa xasan sheekh cali inuu si cad u iska dul taago cadowga ummadeenna cidda ay tahay iyo maanta cidda laga sugaya inaan ku qaadno si cad aan u waajahno yaan ka sugaynaa inaan aqoonyahankeenna uu tafaasiil dheer nooga fidiyo aadna waan kaaga mahad celinayaa waddani xasan aad baan ku ixtiraamayaa inanka xaafadda curadkaygii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa umahadsantahay walaalkay cabdulaahi balbalaaf waan kaaga mahad celinaynaa intaad nagala soo qiibgashay aad baan kugu faraxsannahay labada xasan aad bay kugu faraxsan yihiin labaduba waxay garanayaan waqtigii aan soo wada marnay in walood naga yarayd ood haddana ahayd nin aqli leh oo fiican oo macaanaad ahayd iminkana aad sidii u macaan tahay waan kaaga mahad celinayna cabdilaahi cabdu waxa weeyaan balbalaaf waan salaamayaa walaalkay waan salaamayaa waxa weeyaan waa dadkii aan soo wada qornay Djibouti waxa weeyaan ilaa in dhowr jeer baan ku celcelinaynay oo dadkeena waxayna fahamsanayn waxa la yiraahdaa munaafaqada dadku ma yaqaanaan badanka konton jeer baan u sheegnay war sheekadan ciise in lagu daaniyay iska daaya baan niri ciise uu cadow quraatu leeyahay aan ugu celcelinay dadka cadowga quraatu ciise uu leeyahay waa bahfur laba inaan lidaalin ku galbeed jooga ku guban jooga iyo ku Djibouti jooga cadow quraatu leeyahay waa bahfur laba waxa weeyaan afarta Ismaaciil Marayeel maadeeradii weeyaan waxa weeyaan taasi waxa daliil niga ah waniga hore inuu sheegay dhowr jeer nagu celceliyay xeebta 400 kilometer baad xabad rasaas ka soo dhaadhicin karlaadii ciisow xabad rasaas ka soo dhaadhicinaysiin marka ayaan ila dagaalamay mareero kala nidiidan maya waa iniga dhaxdiin marka ciyaal ay samaysteen meelahan oo sidoo sheegay Cabdilaahi Cabdu uu sheegayo rag badan oo iska oohinaya meelahan intay dhabarka ka toogtaan hadana iska ka kula ooyayo oo yaa loo samaystay dadka oo kula ciisanimadii waa la mariyay war xagee laga marinaya ciisaan oo laga leynaya waa halkan Djibouti weeyaan ninka leynayana waa rag afartan nin ma baafur rabaa weeyaan cadowga waxa leynaya ciisaan leynaya cid kale oo ku soo duushay oo dilaysa ma jirto haduu dhaqaalo iyo rasaas ay istaciisho cid dili karaysa ma jirto anta maxay cidi laga dhaadhicinaya laga dhaadhiciyo waxa dhaqaaliyo rasaasna kala dagaalamaya waa ragaas cid kale oo nagu soo duushay oo dhaqaale ka boobta ciise ma jirto cid kale oo ku soo duushay oo rasaas u diiday ciise ma jirto waxa la dagaalamaya waa raga waa nii sheegnay inaan kolba meel nili tilmaamin khalada oo ruwaayad yar oo meelaha lagu tuuro maxay raqiisa oo afar yar oo inamooda waalan oo loo dhiibay oo lacag la siiyay meelaha waqawqa wada lagu waalin imika waxa socota oo imikadan waxa socota xasanow sheeka galbeedka sheeka maxay hayday waxaan u jeedaa waqooyiga Djibouti tajuuri ubuq ayay jabhadi ka bilaabantay dad baa la soo qabtay odayaal canfara la soo xirxiray oo meelaha laga soo qabtay jabhad baa bilaabantay uguguma soo gashay war ugugumadu xagee jirta xanuun baa laayo way gaajoonayaan oo waxay dhex fadhiyaan samray dhex fadhiyaan way madeen uguguma soo gashay ma jirto wariyada inaan liwaalin wax jabhado soo gashay ma jirto waxa iska jira rag meesha jooga oo uu ku beeliyo maxay Ismaaciil Cumar ku beeliyaa jira lacagtana waxa loogu dhiibaa waa nigi hore inii u sheegnay ninka baarlamaanka jooga gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti iyo wasiirka difaaca labadaba loo dhiibaa oo lacagta gacantooda ku qaada oo geeya halka ka dhaadhaca rag baa halka lagu beeliyaa marka la doonayo in ummadda Djibouti la waalaa la yiraahdo rasaas aan ragga laga dhaw ciidanka ku soo turturaan rasaas jabhadda joogta halka baa la yiraahdaa filan oo matala waxba kama jiraan baan leenahay waxaasi waa ruwaayad tan baaniyoolay joogta baari baaniyoolay joogtana waxba kama jiraan taana oo Cabdilaahi Cabdu Wakiim midee Bernoelkii baa la kulmay mar dhaweeday waxba uu keenay lahaa iyadoo Bernoelkii la gaarin buu Bernoelkii Cabdilaahi Cabdi la kulmay ninka booliska haysta uu kula kulmay baaniyoolay xaafadda baaniyoolay baari ku taala marka jamaacadda baaniyoolay joogtana waa to Ismaaciil Cumar ku xidhan waxba ka soo qaadin ma jirto sheekadeeda maqlina marka ma jiraan baaniyoolayahan wax jabhada
oo maxay ahayd meesha joogto dibadda kaga soo duushay Djibouti ma jirto inaan naga dhaadhicin guguma ma jirto waa been haddii qofni laga dilo waaniga carti aan sheegay dakhilay haddii qofni laga dilo waxa naga dilay waa bahfurraba ka argoosta waxba inaan nini warwareegin in wax jabhado soo duuleysana ma jirto oo meel kale naga timid ma jirto waa isaga halka bay degan tahay randay degan yihiin randa lagu biiliyaa lacagta loogu geeyaa Ismaaciil baa ugu geeya rag uu dhigana waa ragga waa nin sheegay rag badan oo dawladda ku jirana way ogyihiin arintaas kama hadli karayaan oo ay ka cabsanayaan kama hadli karayaan way ogyihiin markaas inaa waxba nili waalin intuu meelaha wax turtuura rag isaga u shaqaynayay inay niga yiraahdaan waan nigu soo duulayaayo reer baa nigu soo duulaya ama cid jabad baa nigu soo duulaysa waxba kama jiraan balana cadawga koobaad city ragga dawaqsan ee maxay la dawaqiya meelaha barabarada ka haya war cadawga koobaad ama city joog ciisow ama Djibouti joog ama guban joog cadow ku dhaataan leedahay waa ragga Ismaaciil Umar yaa fartay maadeeradii weeyaan wax kala doondoonina maalintan waxa is dhaafino way joogsan doontaa waxaan way dhamaan doontaa ka cabanaysi waad arki doontaa aad baa u mahadsantahay xasan waa kaaga mahad celinayaa kulleyba anagoo soo gabagabeynayna barnaamijkii oon doonayna inaan soo gabagabayno waxaan kusoo gabagabeynaya xasan oo nin waliba wuxuu leeyahay Soomaalidu waxay tirahaa nin waliba aab buu leeyahay reer waliba waxaa jira odayaal u talaya oo u arrimiya oo wixii reerka ka xumaada hadduu reerku yahay maad aragtay dhibaato ay qabsato hadduu reerku wax wanaagsan ay kusoo biiraan odayaa uu yaa u arrimiyo oo arrintaas waa loo fadhiistaa marka miyayna jirin dad bil-aadanka intaa le reer Djibouti ninkaasi reerkiisa iyo isaga iyo ubadkiisa dalka ku tumanayaan ay dadka siday doonaan ay ka yeelayaan iyo afartii u shaqaynaysay dadka u leegaysay kuwa iyaga marka halkaa digtid kuwaas si gooniya ayaa loo xisaabin doonaa laakiin isaga iyo ubadkiisu mayayna jirin dad qabto oo soo dhaadhiciyo yiraahdo war dadka dhibaatada u geysateen dadka dalka waad baabiiseen dhulka waad baabiiseen xoolihii ummadda waad qaadateen ummadda ka joogsada miyayna jirin dad oranay oo caynkaas oo oday ka soo jeeda reerkooga iyo dadkan aad ka warramin sidee leedahay nimanka geerisa حسنا رجع قمشات كسوي سيدي وحويان مهما بيليه غير كستو عيسى ومهما بالله سميه مشكلة يهو عيسو وحبا يسكو شيئا غير كستو وحبا لغو شيئا مقرن وحاي هرو لو يدي إن بحفر لبا لقدبا لقواي بحفر لبا معها مركا إن أدو حيري وحقمشات شيئا سابا هديبي لقواي بتخاين لما لقواي لقولي أما منافقات لقواي بماها بابل بحفر لبا عد كالو دي دون مركا أنت وحقبنا يسي شيئا مركا حقيبة جرتابا بمركا مقرن marka waxaan ku leeyahay waxba kama jiraan meeshani ragana rasaas un bay alla yaqaanaane xabadda una lagu eriyo gaalkina waa ka fara ka soo qaadaya ni sheegay waa nigii lahaa gaalka siyaabo dhagaha wax loogu qabtaa jira waa lagu yar qabanay wixii yar dhagaha loogu qabanay waa ka imka darkaysiin isagiiba jiiday dhulka kolba mid qabanaya marka gaalku maalintu faraha waan ka qaadeen yiraahdo ragga waxa qabsadan waa darkii doontiin iskeer suga waxa halka ku joogeen waa gaalka baratacaalka uu sameeyay halka ku joogeen inta tiina waa taas oo dhamaanaysa darkiisa la gurayo maalin manin loo yeerayo loo dirayo convocation loo dirayo warin loo dirayo kaalida lagu hayo dacwad laga qaadayo ragii dawlad baan hayda ku ay jailkii waa kaas marka waxa leeyahay dadka reer Djibouti aniga jibina baash way dhawday shaqadu way socotaay waa laga gudbay tii safarada lagu warban baxay waa laga gudbo qaab kale loo shaqeeyaan umada u sameeyay wayna socotaay yara samraan leenahay ma muuqato shaqadu oo ma wada arki kartiin geligiinu laakiin way socotaa hoostay ka socotaa لكن حسن واحد ترى وحياه بدل او دتك على سو بدغي با جرا او دك خليسين علوشا كويس لكن وقتيا دبا نص شرح دونتا ملانيا ان شاء الله وقت كلام سو شرح دونا ان شاء الله وشيغي دونا wax badan baan u haynaa wax badan waqtigeegan soo saari doonaa ka hor dhacno oo wax khashifna maaha wax badan oo soo saari doonaa jir umada oo soo bardhigi doono laakiin imka dadku mudhaha way guran doonaan shaqada mudhaheega way guran doonaan oo ani hayataa waa ka daragteen kolba suuxay dhakhtar lagu orday Ismaaciil Umar wixii ka tanweynaatay munaafiqad yareed ee wadwaday gaamnayd way baalka uu tanweyn baad timid ويا حسن هذا ما سنتاجي ولا ما دركتي دعوتها دي يا الله دي iyo wixii aad adduunka aad gaarsiisay ee qoraal u sameysay ee adduunyada aad u tilmaamtay ama baad u shaacisay dawladda Djibouti iyo shacabka dhibaatada lagu hayo iyo munaafiqada ay wadaan dawladda Djibouti iyo madaxa u sareeya ee isla baratamay waxa aan ku baxaynaa xasan oo aan leenahay daawadaha madawanaya ay inta la daawan doonta aad bay u mahadsan yihiin Djibouti toosna waan niga mahadcelinaynaa inta barnaamijka nagala soo qayb gashay xasan sheerna waxaan leenahay xasan kulliba waxa lagaaga bartay jimcihii dadku inay maaragtay ay maalinta jimcaha arbaca markay gaadho iyo khamiis inay dadku ila soo hadlaan ay yiraahdeen war jimcaha muu joogaa
durina inuu ku dhicin bay yidhahdeen nacam wax duriya inuu ku dhicin isagoo caafimaad qabaan aan helno xasasheer bay yidhahdeen maxaa ka leedahay ummadda ay caankaas ku sugaysa ee saa ku wada jecel jabuuti oo dhan baa ku helanoo waxay ku leeyihiin gacmo furan ku soo dhawow waxaan leenahay shaqada waa la wadayaa jabina baan leenahay nala shaqeeya nala qaybsada inaguna waxaad haysiin soo daaya inama kaloo iminkadan wararna siiya way jiraan waad ku mahadsantihiin waan ka gaarsiin kari weyne maanta waxaan u sheegaynaa inamada waan soo saari doonaa arrimo caafimaad ku saabsan iyo wax kaloo nala siiyaba way jiraan waana soo saari doonaa inamadaas baan leenahay moodinayna lownay waan ka gaarsiin kari weyne maanta marka soo dhawaadaan inay dadka nala qaybsada waxaad haysiin sababtoo marka wax la isweydaarsado wax badan baa kasoo baxa waxaa kaloo dadka xasuusinayana dacwadii 19 bisha ee haybadi iyo xasan sheerna ma jirto waa la kansalay isku imadkii waa la kansalay la iskuma imanayo nin kastaba sheediisaan buu dacwada ka wadanaya sababtoo maxkamadii Swiiska waxay ka cabsootay inuu meesha dhiig qulqulo oo dhimasho ka dhacday ka cabsootay sababtoo anagu waan diyaarsanay hubka iyaga diyaar baanu ahayn kuway wataan iyagaba inaan israacino oo halkaasi ay jawaab adag ka siino iyaan diyaar u ahayn laakiinse maxkamadii Swiiska waxay tiri meesha inuu dhibaato ka dhacdo ma doonayo waxaad samaysay nin kastaba sheeda ka wato dacwadiisii go'aanna waa la gaari doonaa bay tiwaka aad baad u mahadsantahay xasan waa kaaga mahad celinayaa daawadahana daawanaya inta la daawad doonto waxaan leenahay anigu xasan daaliya oo barnaamijkeennii daadihinayay iyo sawir qaadaha iyo codadka soo tabinayna isagana aad buu mahadsan yahay xasan sheerna waan uga kulleyba telefoon baa soo galay xasan oo qofka muwaadinka baan ku xidhaynaa kulley waa qof maad aragtay uu doonaya inuu neefsado aan ka neefino waayahay may maqashaa السلام عليكم والسلام عليكم مسيح حسن دايدي وقفراي waayahay waa lagu maqlayaa waan kugu furayaa fikirkaaga waa loo baahan yahay kullu inaad nagala qayb gashid barnaamijka Djibouti Toast TV kusoo dhawow anu waxaan ahay macalin horaan ahay moobtay alo waa ku maqlaynaa anu waxaan ahay macalin horaan ahay dadka u shaqeeya qaranka u shaqeeya ilaa 9kii ma ka maqanahay haye marka waxaan doonaynaa isbedel imika 2 sano qurbahan jooga haye isbedel baanu rabnaa degdega dimuqraasiyada wadankii lagu noqdo haye wuu qabano haye جساس هاي شيء waayahay maxaad ku darsanaysaa oo kale oo su'aal weydiinaysaa mise inta aad noo sheegaysid oo nagala qayb galaysid anu xasan daaliyo xasan aad baan la socdaa arrimahooga xagga goorma dhigaysta haye anu waxay ku darsanay dadaalka halka ka wada noolaada waayahay aad baa u mahadsantahay kolleyba waxaan aad uga xumahay anigoo oo xasan daaliye ah iyo xasan sheer oo ku maqlaya waxaan ka xumahay adigoo macallin ahaa oo carruurta noo soo barbaarinayay oo ubadka Djibouti wax barayay inaad dalka dibadiisa joogtid aad baan uga xumahay laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa inaad dalka kugu soo celino aad carruurta noo barbaaris waxaan ahay xasan daaliyo le premier surveillant de Istanbuli haye marka dambana dhulka xaafadda ka dhigi jiray haye امتحانات بقى غير الكسون بريزنسيال كان سيريس تقدر كيف كانوا في وضعك هاي نادر ما يمكن انجليز كان دغني واحد تعال وضعك يلو هلاو هاي نادر ادبا ما حسبتها ان شاء الله واحد عرفتي لك تصير منها هاي dadkii la waa diini iyo diintiisu هاي تبي مستحسن قريني في صدحات هاي طريق على حوالك تبي waa diini iyo diintiisu مستحسن قريني ودي هاي warkawaran waxa hadaba dhaqtar ku dhaqataa waaye waxa la marka fiis boo fiis la ha ku qadagol صح waxaan wadaniya inaad waxna wada ku isbedelo waaye waxaan ku rajeynayaa dhageyso waxaan ku rajeynayaa inaad inoo soo noqotid waqtigu fiicnaado oo dhulka isbedel fiican iyo iskoolkii oo ku soo noqotid ciyaalka aad noo barbaarisid iyo maad aragtay ubadkii oo dib u soo bartid tacliintii iyo noloshii aad ku soo noqotid xasan daaliyo anu waxaan ahaa rag badan oo imika saraakiila oo korneelaha oo kabtana macallimiintoodii bana sumeeyoodii bana haye saraakiila oo inta fiican garanaya maanta Musa Ahmed haye
aynaadeen saraakiil badan korneello ciidamada garanaya aniga haye waa nasiib waa dadaalkayga waan mudiyey laakiin maanta dibadda ka jooga insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inaad ku soo noqotid dalka inaan ku wada noqono insha Allah insha Allah wala noqonaya insha Allah dib baa loo wada noqonayaa oo halkii STA dib baad u noqonayo oo magaalada tacliin wasiirka tacliinta laga dhig maxaad rabtaa oo kale iyo dad xaq baad u leedahay wadanka insha Allah adu in badan baa la shaqeeyay dowladda Holland ee Christian Democrat kana shaqeyn jiray Holland baa deganaa imika waxaan ku noolaa UK haye dadaalkaygu ma xuma waana idinkuna noolaada sida beddelkiilaha noolaadaan aye waa mahadsantahay noolaada ويا حسن كل برنامج كسوق قبلنا ما شاء الله انت انا رشقي سيء انت ما قلت امد هذا الاول ذاكتي برنامج هذا في عن كبحيا جيبوتي توس iyo umada reer Djibouti oo reegan tahay habeen iyo daraad baa u diyaarisid sideed ma aragti dadku ay ugu bixi lahaayeen ciilkii cadada iyo master geel oo kaliya isla baratay oo maanta fadhiisan oo fadhigi iyo kursigiiba lagu kari lahaayay oo kalba diyaaradda kiciya saas ku shiba iqaada Faransi geeya halkan geeya odagii kulay wuxuu habeenkii yiraahdaa iyo maalin waliba waa ninka xasan sheer iyo dacwadiisa iyo jimcaha meel iga xidhan waa waaye marka shayga xidhan wadaada waliba meeshan meel la xidhay muhiim baa leeyahay oo meel ma aragtay waligeed bas u furnaanaysa ilaa dadku xoroobaya soo xasano hawa sida ku daalaya wax weeyaan ma xidhnaanayso meeshani wayna soconaysaa hadalkuna uu soconaya shaqaduna way soconaysaa ان افوفكم وصعنيا ولا يسفوفي دونا ومحيري لقبي السوق وصعنيا انكو انا هو دبرك كاميدين iyo idaa hadal ma noqonayso wala iswada midiin in baaniki en dibta ku dambayso oo doono ayar joog bahore loo yidhi ma yaa la oran jiray markaan yarayn waxa weeyaan ma baan soo soconaysaa ninba intuu taagti gaarsiisay weeyaan hadii yaan leenahay marka waxaan maleynaya xasan oo inaan hadii waqtigii 2 saacadood buuxino dadkeena saxan مي ما شاء الله وحنا سوي قالها إيو عددك أسوت بني أدبا وما حسنتها كل بقى أمضنا داونا سيء أنت نداود وطلع حلنا هاي كسر هذا برنامج كي ونجمع هاد علنا لا أنت برنامج كأنك راسك أي بشين أنت هذا كجرتي أنت قدالك داود وطلع حلنا أدبا وما حسنتين حسن شير نوان كم وجمع هاد علنا لا أنتوا سنوا برنامج كأدتك ما له ولا وسكوها ولا وصو دياريو ما حد وين بق يا وصو دياريا بعد جيبوتي توست تي في أوردر ومدى reer Djibouti oo dhan kuleyba qoraal iyo dhinac waliba kaaga soo jawaabta oo ku soo ducaysa duco baan ka noqono ku wadnaa umada reer Djibouti waxaan leenahay inta qabta ilaahay caafiyo inta caafimaad qabtana Allah uu siyaadiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dalkii nabad nagu wada celiyo dhamaanteen oo carruurta Djibouti dib qurbaha jooga dumarku iyo aabayaashu ay la cadbayeen ay barafka la dhaxayaan inay dhulkooda diiranaayeen la boobay la laayay dadka la baabi'iyay in dadkooda ku noqdaan nin waliba halkiisii uu walba ku dhashay uu ku meeday inuu iskaga noqdo ayaa u rajeynayna umada reer Djibouti oo dhan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh wa calaykum salaam Oh, yeah.
Thank you.